intiina dhegaysanaysaa waxaanu dileenahay mar kale kulan wanaagsan waa aniga oo ah xasan maxamed yuusuf iyo yuusuf cismaan cabdille yuusuf shaacir oo halkan idinku soo gudbin doonaa maansadii ama silsiladii caanka ahayd ee la odhan jiray siinley oo soo baxday sanadkii 1973 bilowgiisii abwaano badanina ay ka qayb qaateen kuwaas oo kala ahaa cabdi aadan xaad oo cabdiqays loo yaqaano maxamed ibraahim warsame hadraawi iyo cali salabaan bideeh allaha u naxariistay cali salabaan maxamed xaaji aadan axmed afqaloo maxamed xaashi dhamac gaariye siciid saarax axmed maxamed cabdilaahi riiraash yuusuf jaamac oo yuusuf canfar lagu naanayseeyey iyo ninka la odhan jiray axmed maxamuud iyo weliba abwaano kaleeto ugu yaraan 12 hal abuur ayaa iyagu ka qayb qaatay silsiladan loo odhan jiray siinley sida ay ku bilaabantay iyo markii ay bilaabantay maansadii ugu horreysay ama heestii ugu horreysay ay ku bilaabantay waa kan yuusuf cismaan cabdille yuusuf shaacir oo inoo soo gudbinaya bismillaah waa mahadsan xasan siinley waxaanu odhan karaa ujeeddo cad ama abaar sugan oo laga hadlayaa may jirin waxay ahayd jaantaar rogan ujeeddooyin badan ayaa loo fasishay wakhtiyadii ay soo baxday wadani dhinac jacayla siyaasad iyo qaybta ugu weyn oo ahayd dhoolatus xagga af soomaaliga ah sababaha aanay ujeeddo u lahayn waxa weeye marka horeba si lama filaana ayay ku dhalatay marka xiga sarbeeb bay ahayd marka xiga ragga alifay ama curiyey way kala fogaayeenoo qaar waxay joogeen xamar qaarna waxay joogeen jabuuti markaa sidaas baa loo odhan karaa siinley may lahayn ujeeddo cad sida aad ka arki doonto marka la dhex galo heesaha laba ninoo dhinac u wada safan haddana marka dambe iska soo horjeesanaya rag kaloo qarda jeexa nin laba ninoo ishaysta isaguna sii dhaliilayo oo le idinkaa meesha qarribay sababahaasoo dhan baa ku tusaya inaanay abaar sugan siinley lahayn yuusuf sida aad u sheegtay arrintoona haba noqoto laakiin haddana waxaa jiray in ay si gaara u taabanaysay dareenkii siyaasiga ahaa ee xilligaasi taagnaa khaasatan kii ku saabsanaa maamulkii warkaa waddanka ka jiray oo aad moodaysay isaga qudhiisu inuu si gaara uga diday dabcan marka dadka silsiladan wax kala socday xilligaas ay soo baxday iyo dadka dib ka maqlayba dareenka ugu weyn ee ay qabaan waxa weeyaan in ay ka mid tahay siinley meelihii mafaatiixdii ugu horreysay ee siyaasadda taliskii markaa jiray abaartay ama lagu furay qaybtii labaadna silsiladii caanka ahayd ee yaabka lahayd ee deelley iyo dadkii ay horisay ay qaadatay markaas miyaan ujeeddada ugu weyn ee lagala soo dhex bixi karaa aanay halka ahayn haba la isdhaliilo oo abwaanada silsilada kasoo qabay ha isdhaliilaan arrintaas maxaad ka leedahay waxaan horta way jirtaa taasi oo maamulkii waktigaa jiray uu ka dido oo waabu mamnuucay oo may ahayn wax sharciya si kootarabaanaba la isu gaadhsiin jiray sida ay sheegeen hal abuuradii curiyeyna waxaa fasiri jiray oo ujeeddo u samayn jiray hadba bulshada dadweynaha fasiri jiray marka waan sheegay oo qayb siyaasiya way lahayd qayb wadaniya way lahayd jacayl way lahayd dhoolatus xagga af soomaaliga oo raggoo markaa dhalinyaro ahaa way lahayd ujeeddo badan bay ahayd laakiin bulshadii waktigaa joogtay waxa ugu weynay u fasirsheen waxay ahayd uun inay nimankii askarta ahaa ee waktigaa maamulka qabsaday ay bahashani la hadlayso oo durayso waa tahay yuusuf adigoo bal aada u mahadsan waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo saan maqlay heese hordhacu ah oo siinley ka horreeyo la istixraacayay oo la odhan karo miftaax bay ahaayeen ma jiran iyagu ha way jireen horta waxaa miftaax u ahaayoo furay sida la odhan karo malaa isaguba de isma ahayn siinley fure deelley iyadu ku talagal bay ku furantay oo wax la isla ogyahay bay ahayd laakiin siinleydu iyadu ku talagal may lahayn laakiin heesta ugu horreysay waxa uun ay noqotay markii dambe heestii hadraawi ee la odhan jiray saxarla
ama waan soo socdaaye kowdhe laakiin waxaa jiray heese ka horreeyey oo sabab u noqday ama ahaa albaabka iyo jidka loo marayo in la istixraaco waxaana ay ahayd sababtaasi cabdi aadan xaad cabdiqays ayaa 1970 hees tiriyey heestaa waxaa la yidhahdaa aakhiroy xaggee baad naga xigtaa waa markaynu doonayno albaabkii u horreeyey siinley laga galay heestaas wuxuu yidhi cabdiqays maalinta xanuunka iyo xaqa mawdku soo galo xabaasha iyo iilkaan kugu soo xasuustaa xidigaha cirkee sare inaad xubin ka mida tahay inaad hoos u xulan tahay dhulka xero ku leedahay maanu helin xogtaadii aakhiroy xaggee baad naga xigtaa in la xaabinayo adduunyadu xayiran tahay aan xawd la reebayn waa xarafka eebe inaad xurarcayn iyo janno iyo xaree tahay marra xolada naar iyo xanuun iyo dhibuun tahay xijiyay ku maqalaye aakhiroy xaggee baad naga xigtaa inta gabadh xishootiyo wiil xariira kugu maqan ama geesi kugu xidhan xaddi way ka badatee inaad xaajo adag iyo xisaab leeday maqalaye xumaan iyo samaanta xaaladay ku noolyihiin maanu helin xogtoodii aakhiroy xaggee baad naga xigtaa haye heestaas oo madax bannaan buu cabdiqays tiriyey bulshadii markay heestaasi soo gaadhay ama soo baxday markiiba waxaa loo fasishay inuu la hadlayo taliskii la hadlayo cabdiqays aanu aakhire raadinaynin uu leeyahay war waatanoo meesha askar baa qabsatay cadaaladii iyo xorriyaddii iyo sinaantii xaggee bay ka dhaceena qabteen laakiin cabdiqays anigu waan daawaday iyadoo nimankii sinlida curiye laysu keenay mar jabuuti oo cajalad fiidyaa cabdiqays wuxuu leeyahay anigu siyaasad ugamaan jeedin heestaasi waxaan markii hore tiriyay hees ka horreysay odhan jirtay adduunya xaalkaaba iyo riwaayad saasa ku saabsanayd marka waxay iga ahayd un war bal aakhirana dadka ogeysiyo iyadana mar haddaad adduunyadii ka hadashay bal aakhirana taabo aniga ujeedadu saasay ahayd buu laakiin waxaa loo fasishay un inay mawduuc siyaasi ah ay tahay si kastaba ha ahaatee cabdiqaysna wuxuu doonaha uga jeeday ee waxaa ka soo jawaabay heestii maxamed ibraahim warsame hadraawi heesta la yidhaahdo arraxmaan ayuu tiriyey hadraawi laftiisu isagoo ka sheekeynayaan maqlo wuxuu leeyahay aniga laftaydu waxaan doonayey inaan maamulkii waktigaa jiray si dadban ugu sheego aan u maago dabeetana waddadii aan usii marayay ay halkan noqoto wuxuu yidhi hadraawina ergaduu fariintiiyo ku adkeeyey heestee igmadaanu kulanno looxii ilhaankan sida uurku baallaha indhahayga saaro warku waa ammaane adna maxamed moogow aakhira halkay tahay cabdiqays ugeysi ayadaha qur-aanka iyo arraxmaan siday tidhi hadalkii ilaahay ruuxii islaamhi sida uu aqoonsaday waa ooman hawdo waa guri abeesoo edab weeye hoosoo abataqan ku yaallo waa iil madowoo rabbigay addoomaha kaga aargutaayo waxaa laga arooraa iridaha xabaashoo abban maayo ruuxii qabri lagu adkeeyo marra ogadeeniyo waa oosha guudkoo waa beer udgoon iyo duni wada ilaysiya waa ceel irmaan iyo tugag wada ordaayo ila wada xareedoo lagu oombaxaayo naftu eegma sugashada ashqaraar ka qaado 70 ooriyod la aqalgalaayo rabbigay addoomaha ku abaal marshaayo dhibta lagu ilaawaa afayaha barbaartow ababshaha dhallaankow taliyaha abwaankow aabbaha jacaylkow adigaan ogeyn baan uurkaaga baadho ula jeedadaadaan ka arkaa dhul dheeroo arrintaadu qaysow afgobaati weeyaan aakhira cabdow way aasan tahay iilkay jirtaa aakhira cabdow ambantoo luntoo ururka iyo laxaa awrkii cirkay ku ag xidhan tahe ish dadku yuu ku eedayn ha dhex gelin umuuraha isha xidho afkana dhow arag maqal warkana od labadaa heesood siinley kama mid ahayn laakiin waxay ahaayeen kuwii tixraaca keenay u noqday sabab inay siinley soo baxdo oo cabdiqays baa kiyo jararaacaya hadraawi heestii saxarla markaa ka daba qaatay dabcan heestaa saxarla waxay ku jirtay riwaayadii la odhan jiray aqoon iyo afgarad oo curyaheedu ahaa maxamed ibraahim warsame hadraawi marka cabdi heestaas wuu tixraacay isagoo de u aaneynaya intiisii hore hadraawi ka jawaabay aakhir xagee laga xigtaa ayuu tan haddana isaguna markaa tixraacay labadaa heesood markii la tiriyey waxaa la wada joogay hore labadaba xamar baa la wada joogay cabdiqays iyo hadraawi xamar bay joogay intaasi markay dhacday cabdiqays uu ka yimi xamaro wuxuu tegey jabuuti muddo ka bacdi baa riwaayadan aqoon iyo afgarad ay soo baxday cajiladihii baa waxay ugu tageen cabdiqays heesuu ku jireen jabuuti
waan gartay cabdiqays heesihii dabeetana wuu baadho heestan saxarla ama waan soo socdaa kowdhi ayuu kala soo baxay heestaas buu ka jawaabay saxarli waxay leedahay kursinaan dharaartii la sargooyey dunidee rabbigay sameeyey cirka sare u taagay xidigaha siraatiyo dayaxsoodi meeriyo lagu sugay cadceedee sagalkiiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaacee dhulka gogol la seexdiyo saba lagu nagaadiyo laga dhigay sindadabkaee buuraha la saare dhirta samayda ciidiyo salka loogu joojiyey saddexlaabad iyo webi lagu yidhi sabeeye dabadeed la saanyey qofba meel la siiyey saldhiggeedu qaydnaa cidi uma sinaynoo dadku ruux sabooloo saranseer ku raagiyo guryo sama mid yaalloo sid ka dhalay ku maaloo helay seerma weydiyo laba kala sadroon baa subax noolba jooga salfudaydku xaawuu jannadii ka saaree ruuxaad sugaysoo maqan waa la saadshaa sahan waa la dhowraa ha sahwiin ha salelin sarka dhaban ha noqonin ha saluugi qaybaha qalin baa saxeexay waxaan saatir kuu qorin ha u suul dhabaalayn kala saar run iyo been kala garo sir iyo caad in salaadu weligeed kala tahay sunniyo faran u ogow saxiyo maan inaad saamajiidiyo sanqartirasho kala daah naf jacayl sawaaboo sanka kuu daloosho kuu sudhay hoggaanbaad u sidaa maqaarkee ha ku daba saqlaysee ha u gaabin seetada sogsogtiyo cadaadiya ha ku saydhin laamaha waan gartay waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe samir yeelo weligaa saxarlay ha fududaan taasay ahayd saxarli taasay ahayd haye cabdiqays markaa taas buu ka soo jawaabay heesta la yidhaahdo suuban dadka qaarre u yaqaana ninka soo socdow joog waxaynu iminkana isku dayanaa jawaabtii cabdiqays waa tahay ka bixiyey wuxuu idhi inuu walanwalow samir walanwal waa naanay sadraawi aabihii ina walanwalow samir haweenkaysa seegtee 8 nabar adoo qaba waa taa tii 9aad seedaha ku goysay saaxiib hadraawow maxaan kuu sameeyaa seefuhu ku jiidhe gabadhii ku sidataan sabadii jabuutiye xeebaha sintoodii iyadoo nin saray qabo subax aanu kulanoo sababtiina caashakha markii aan su'aal idhi waxay suuban leedahay hadba saacan joogaan tukadaa salaadee adoo saba wanaag yaal ruuxa saylac kaa jira looma sacab garaacee sifaheedu wuxuu yahay siri way jirtaa kowdhe sama lama hayee labadhe waxay saxarli kugu tidhi ninka soo socdow joog waxaad soo sidana celi anigu waan san fudude waxay suuban leedahay wax markii la sugi jiray adduunyadii ka socotoo soo ratii hortaada iyo sacabkaaga taallaa sadna ugu wanaagsane sifaheedu wuxuu yahay samir wuu dhintee kowdhi sama lama hayee labadhe waxay saxarle kugu tidhi ninka soo socdow joog waxaad soo sidana celi anigu waan sal fudude waxay suuban leedahay safar meel fog tegay iyo lama dhowro socoto waa sabankii beentoo wacadlaysa siiyo runi way sal guurtee sifaheedu wuxuu yahay sabool waa nace kowdhi saxal waa madhniya labadhe waxay saxarle kugu tidhi ninka soo socdow joog waxaad soo sidana celi anigu waa salfudude oo saxarladii buu soo gudeelaya warkii baan kasoo tabiyo waxay leedahay aniga waxba hay soo soconin meeshaad iska joogo horta halkay bahasho ka siraada halkaasay ahay yaa markaad saddexeeyey waxaa saddexeeyey horta iyagiiba haddana isku soo noqday hadraawi baa markii jawaabtii cabdiqays xamar ugu tagtay haddana mar labaad ku soo noqday maxay ahayd heestu sidii qabax heesta la soo jiray wuxuu yidhi saaxiibkay qaysow marka hore salaan guud marka xiga sadkaagiiyo waxa aad ku sugan tahay waa inaad nasiisaa marka xiga silsiladii murtidaadii soocnayd subciyoo dhammeeyo solay oo bisleeyoo dabadeedna siistaye saaxiibma nabad bah sumadeedu waxay tahay roob saaka da-ay baa sarka dhaban la yimi oo anna seexan maayee saaxiibma nabad bah sumadeedu waxay tahay heestaydu waa siin sidig weeye dihinoo waxaa loo saddexa maray dadka hawsinaatoo ruuxii saboolhi caanaha ha saydheen saaxiibma nabad bah sumadeedu waxay tahay heestaydu waa siin waa suuriye xidid oo saxar laga ilaashoo laga sugay bidhiiqoo la saluugi maayee saaxiibma nabad bah sumadeedu waxay tahay saxan saxa ma roobba seed geel ma helibba saka ari ma xoolaa fardhaxaad ma suulba sakaraad ma loolba biyo sare u jeedaa halka ay saldhigayaan saxar raacay weydii sumadeedu waxay tahay cabdiyow sabeenii waysu malxadeenoo midihaysa sidatee 3 dhalay warkoodiiyo waxay saaka joogaan xogta aan ku siiyo sarta kaaga jeexee saaxiibma nabad bah sumadeedu waxay tahay sheekadu salfududaan ama socodka qaarkii kuma samafalayso cabdiyow ka saan weyn saabka aad u goyso guban iyo saraar bay suxullada la gaadho sinta waxay ku haysaa subulaha galbeedo ninka saylac joogaa sanqadheeda mooye ma yaqaan sirteedo
orgi saraara weyn oo sogoboo dhufaaniyo inay tahay risooyoon kala saari maaye haddii looga sacabtomo salbihii guraacaneed salal kama baxayse ha la boodi seeftee saaxiiba nabad ba waa hagaag baad qarbaad shafaysaa sabadeedu waxay tahay inta waranka sooyaan samaydii ka maqan tahay inta laba su'aalood sakaaluhu dhex yaaliin inaan dunida saadka iyo laga saarin tiirkoo qoraxdana siraadka iyo laga siibin nuurkoo la afuufin suurkaan rabbigay ka sugaya waan gartay sumadeedu waxay tahay ninka ootay seeraha saxarlana ku guursaday haddii uu nin sare yahay aan laga sad qaadayn saadaasha mooye si kalaan ka yeelaa suuroobi mayso aniguna sidaydaba sodohaha rag kale qaba kuma toobad seege amaan waayo mid madax banaana sumadeedu waxay tahay sidii qabax 5 maalmood sahay loogu talagalay sodon laguma gaadhe hadal lama sugnaadee saaxiibkay qayso waxa suuban leedahay saca faarsanacay oo 9 bari adoo qaday samsam iyo bulaala saarkaagu ka hayn saxray ku lata waan gartay ridadii labaadna halka ayuu hadraawi soo dhigay oo waxaad ka muuqataa inuu leeyahay war arrintaadii wala siyaasadeeyay bal wax iska hubso oo cabdo ashra cabdi qays marka dambe ogaan doono oo heesiisa dambe ka muuqata ka garaabayo wuxuu leeyahay bal wax iska hubso cabdi qays markii tahay soo gaadhay cabdi qays waa soo noqday mar labaad wuxuu yiri saaxiib hadraawow inkastay sideedaba safar tahay adduunyadu lagu sugayo geerida saaka waa ku noolahay idinkana sidoo kale sama ina ku waartaan saatir baan baryayna sargooyaan dhaafe murtidii aad soocday sidiqaba xub bixisiyo helay sadaradaado saxayo u gudoomay waan kula socdaa garo ana subaxan dheerayn awrkeeni sulubaan surada iyo loolkiyo soo saaray dhigahee qabayuu ku siigni sargooyaan dhaafe sasabada dhallaankee suulcayn iyo dhagdheer lee markan qaydka sidaniyo saman layna bari jiray marun baasalkeedii si sabiga un baa lagu seexin jiray waan gartay ase kuba su'aale waxay saxarni tiri iyo warkuun baan ku siiyey hadmaan seefta qaatay kugu gooyey seedaha intaa nabarku kugu siqin ayaan kaa samrinayay mana toobad seegiyo 3 caasho kugu idhi hadmaan saanka weyn iyo sheekada u xidhay saab sargooyaan dhaafe waxay saxarni kugu tiri hayla simin sax kugu nacay samsam iyo bulaale muddada aan ku sugayay samirkaa badnaado waqtiga ila siibtoo ina kala sarseeray waan kula socdaa garo sargooyaan dhaafe saaxiibow haddaad tidhi seed geel ma heliba hadda saanta kaba haba rag baa sabana quutay waa su'aal jawaab leh sanadka miyaadka samaalow haddaad tidhi saka ali maxoola ogoobay sabool maran soofna way u noqotaa waa jawaab su'aal leh ruuxa sacabku maran yahay miyaankii sabeen leh sabtadaba ka roonay subanow haddaad tidhi sakaraad meheesba ogow sawdka dhaantada iyo salowga taa haba codkeenna sameeyo midba saacad weeye way ku sinaadeen waan kula socdaa garo waxaan sugayay sheekada inaad sare u qaado soodintii hawaas iyo email la socotee subunuhuna waa maxay sulkaaba gaadhi midna sadarka weeye sararaha warkaygee suuban waa nin naagtii sidan hubana caashaqu wuu kugu samaysmoo kaasal guuri maaye waxba soorta ha u nicin sakaraadna ha u noqon inaga isugi haddaad samirka diidana suubaala iyo hadal saaka kuma helayside sida quraad ku dhaxashaa ama ay ku sugan tahay waa adoo u suuqmoo dhididkana u saydho salla uga dulboodo surmi ugu badheero gaajo ugu sahwiyo suxulka ugu rooro soorka iyo bilaawuhu jidhkaaga saafoo dhiiggaagu saydhmo surka inaad waxgoysiyo inaad sababto taada aan saddexaynin weeyaan waa gartay waa halkaas sifada ugu weyn laga soo qaatay adigoo u dagaalama soo banaa ay ahayd uun xorriyadii adigoo u dagaalama dee remenba haysto gacanta ku hayo u taliyo xukume barya lagugu siin maaye haddaad u dagaalamayso dhibaato mudanayso dee waa meesheeda ku heli karayso waan gartay waa halkay saska ka qaaday xukuumadda waa kula socdaa garo midna suxulka weeye uu sahanku sheegay ninka qabaa siduu yahay suuraddu u dhigan yahay balaan kuu sifeeye waa mid sarara weyn oo seediisu adagto saaxiibo badan iyo 9 aan rabaysto seef iyo itaalo sarsarkiisa aadmiga surinka ugu gooyay sidaa weeye xaaji ma ku saaraysa waan gartay waa ninkii imtixaanka ahaa afarta markii la isdhaafsaday oo aad ka muuqato in bahashu wali iyaga laftoodu aan isla haysan oo ninba dhina kalena fog yihiin baashan sarbeeb tahay lana baqayo kacaankana waqtigaa dee seeftiisa ay kulushahay ayaa waxa hal abuurkii kale اللي بهاشي دتك لغا ملهه oo waxa qadiyada guudi la soo dhaxgal xalaabka kale soo dhaxgal la wadaagay bahash waxa ugu soo horeeyay ninka la yiraahdo Ali Saleeban bidi Allah ya rahme uu dhintay Ali Saleeban Maxamed uu dhintay Allah ya rahme hees isaga laftiisa ka muuqata inuu wardo yahayo wixii fahmay ayo la ku curiyay waa kuwan deen baqar shafaye
وليه وربل waxaan sida u jeedaa maxay siyaasad ba ma jacayl ba bal arrinka noo sax oo muujiya hees ay ka muuqato ayuu tiri wuxuu heestiisa ku yiri wuxuu yiri siigada dhacaysiyo sanqaraha baxaayo buuqiya sawaxan siigada dhacaysiyo sanqaraha baxaayo heesta siinka joogtiyo buuqiya sawaxanada inay sanadu caan tahay 3 iyo 7 sifafaalaheedaba sixi waaye anigu iyo saad yar hemnooda xaajadu sirkacana sawtan laysa seegay la afeeyay seefaha ee warankii sooyaan loo doonay samaydii sawtan aanay culimadu seexanayn habeenkii rabow saawaha sida roon adaa ogi naga samata saaro noo sahal umuuraha waan gartay sawtan samir la dhaafee dadkii saaca raacee barbageesu saydhmee saaxiibadii iswaayeen ee sahanka loo diray biyo sare u kacayee tima sacab ku yaalana soo sheegay aadmigu saba arigu daaqana samadaaba laga heli waan gartay saaxiib hadraawow adaa saaka joogee sidigtaa saddex xambaran satiyada fijaan kale sooryada aad qaaday qofna kugu saluugee saylac kaaga soo yidhi ninka soo socda u noqo bal sidaa u jeedaa warka saafa oo qala ma jacaylku saaqoo cabdi kugu safaadaa masir aan la dhaadayn oon cidi sarrifin iyo war kaloo ku siiya xaalku waa maqaar sar arrintaas sawaabteen dadku miyuu u siman yahay masabool dantiisba bal sifi xogtiina sarar loogu riday ciid siin ma moodo doqontu iyo sadbursiye weeye sabiga iyo maangaab kala saari maayaan murtidaa la soocay sakaraha la geliyee saabka a u yeesheen warka aan ka siibiyey siday aniga ila tahay soortaadoo nin kale cuno sidac weeye noloshuye ragga jiirku suuqmiyo kuwa ootay seeraha wadka way u siman yihiin suurtuna ha yeedhee saxarloo mid kale qabo saba lagu nagaadhiyo gacansaar ma joogteen saa dambe maxay noqon dhaaxaynu sameeyay waxaana halkaa moodo inuu dhinac ka yara raacsan yahay raawna dhinac ka yarta haddana waxna aan warka ideegsiidii arrinkaasna waa sax aad maduubay waan gartay halkaa alina mariyay halkaasna cali saleebaan buu cali saleebaan waan gartay halkaa markay maraysay waxaa soo galay ninka la yidhaahdo xaaji aadan afqalo allah yarxamisna uu dhinto oo markaa daadiisa lagu qiyaasay 120 inay weliba dhaaftay waa markii uu dhintay ayuu intaa ahaa markii uu dhintay oo ahayd qiyaasii dhowr iyo 8 ahayd markaaba dee nin weyn ayuu ahaa 100 dee jarjar buu markaaba ahaa الحاج هذا واحد فليه بس وقت أنا محمد شوقي رجع بدل كودو جامعة عدي لفه له أي كاهو أي شوقي حاج هذا سيدي علي يسوق معها على وردون بوها لحد حادنا وسكاها حاج هذا يسوق بريسي وروح لسه فيه هتراوي ويسوق أيضا يا عبد القيس ولا ينوح فهم سنبأ متى ويسوق أرنتين شقوت الحرية ayuu isagu ka hadnaas ayaa sheekada halka soo warka halkaas isagu ka fadkudiyo arinta waxay istaxay dabeetana masafo uu bixiyay salugla ayuu isnatri masafadu waa bad ka duwan badii hore ay si hore ku saabsanaayeen oo qaab laba dhac oo tii hore day xamilka qaabka jiiftada midho waan gartay ka yar duwan tahay wuxuu yiri abdo way saseegteen saaxiibka hadraawi sababtana adaalaan garan siduu u jeeday faaladii sirta ahayd si kala fahantay taladeena siban baad soo dhabaale moodiyay sogorda iyo cadaankaad kala saari weyday bishiyo 3 xaba 30 kula ahaatay sagal baa daruur mooday saaka bada aayay surwaalku laha gabaygu adiga ka saare mariibad kala baxday waa sixirka oo kale sixun wuxuu tilmaamay sufahada iyo doqonta dariiq uga samaysay su'aal adiga ka weyn sahal looma celiyay adigaan dawada sidan maasha lama saraaye nishin birasaba ayaa warafka ma sanqariye hashi aan sadkeed gaarin sidig laguma sheege lama socotid suguliye saaxiibadiisa sidii subaga loo helay salow baa bilowday hadii timaha laga sugo madaxu saxar ma qariye saad u maqashay mooyee dhakadii baa la seemay waa suxinta sharafkeeda soogto inay dhamaatee saryankiiba waa halis sida maanta joogtay waa tahay ninkii culuqa siday baa sadbursiya doonay saxarlay hafududaan sidaad mooday maahe sideed ay heeladu waa wax ka sokeeye sooyaanka aad tiri marna sameeyma waayini ka sidaana ma hurdo samajeesta weeyii waa tahay مسيحنا عن برا سجل سمرة يبودي سهن كده وحو قاري سحل كيا مريقه صبحنا والبو واحد شوقة ساعات قرا ما موجيني سمرنا ما يسجل يسوب أنو عيارته سعيدة يدغنا ساعات كوي كبودي وحو سوس دا وضيق وسياق دودي سينك أي ساعات كات كلا ساري ويدي منك سوس سحلا عيرين تربيد ويحسطه وسوس عدا كودي وإحنا نقول سيدا الله بدي سحر لا يحفظودان سيد ودي ماهي دين ماهي هل كان سوق بحي أيوة مريم وهجاج يا كحجي
waxa soo galay maxamed xaashi dhama وقارية gaariye waqtigaa wuxuu joogaa magaalada burco ee gobolka togdheer oo macallin ka yahay laakiin sida ka muuqata waqti aan fogeyn buu ka soo sadcaalay xagga la foole oo markii hore isna ragga ah ayuu kamid ahaa gaariye isaguna arrintiisu waa uun wardoon iyo dhexdhexaadkii oo weli dhinacna kuma cadda marna waxaa soonaysaa hadraawi buu ku yar dhow yahay marna waxaa soonaysaa cabdiqays buu ka yar shaabahaya wuxuu yidhi heestiisana wuxuu bixiyey marka hore salaan guud wuxuu yidhi marka hore salaan guud rabisay makaahay marka xiga sabeenii midahaysa sidatee saddexdii hadhee dhalay jee saboole maalo ku sangaaguroodaa xalay socoto baahani marti ugu safteenoo mid siniin lahayd baa dogob loogu sulayoo ninba waax la siiyo labaasaa ka joogay saaxiib ma nabadba waxay suuban leedahay ninkaas soo socdaamee muxuu soo sidaa sheeg saaxiib hadraawow duurkiiyo sarmaantii saaciyo ugbaadkii sogsogtiiyo galoolkii diir lagu salliday baa laamiisa riigtoo waa soobir caawe samaydaaban shidan la sahankaan u diray ee sanadahan maqnaabaa saka laygu sheegay adaa soo jireenahe masug baad leedahay maraa suuban maqashayee way siiban tahay oo weli waa sideedii saaxiib hadraawow waa erey su'aalahe candhasaab ma dararaa jinow geel masixinbaa sakaraad ma geeraa alla bari masooriyaa nin la sigay ma nabadgalay adoo deercad soofroo saka lagugu leeyahay suuradaha ka baadho maqaasaar ma bixin lay sagaal adhiya ruuxliya anoo subaga daadshaa ma sinaan karaynaa waxay suuban leedahay suuraaf miyaanahay salfudaydku waa maxay naf jacayl sawaabaan sahwi daynahaynee duqisaba wanaagiil wuu soo socdaayoo seerihiisa kii galay dhab u seexan maayee saylac waa tallaabee cirka sare hadduu dego saddex magac ilaahay seeftu way dul taallaa saaxiib hadraawow ninka saxarla guursaday maseedaad ka dhigataa waxay suuban leedahay ninka maydka sarayow damqan maysa saantuyo waxa iga sargooye ah hadda saaqi waa fool aniga usatiriyo saa dambuu ku buuxaa intaa waranka sooyaan ha iska samay la aadee saaxiib ma nabadba waan gartay halkaas buu gaariyana waa maxamed xaashi dhama waxaad moodaa inuu gaariye kulad qabsaday hadraawi dhinacan cabdiqays uu kasoo yaro horjeedo oo uu leeyahay saxarla ninka guursaday ma gaari hadraawi maseeda ka dhiganaysa iyo dhinacna waa kan le waxay suuban leedahay salfudeed waa maxay siraaf miyaan oo xaggana waxay moodaa cabdiqays kala socdo waa mansabi markaas lixaad oo bahashiis waxaad moodaa inay ujeeda badan tahay laakiin waxaad moodaa inuu hadraawi kulad qabsaday jawaabna uu ka sugayo hadraawi laakiin jawaab hadraawi kama helin waxa uu soo jawaabay nin kale oo la yiraahdo Saciid Saalax Axmed oo waqtigaasna joogay la foolay waan gartay oo waxa macallimiinta halka joogtay waa weyn aan la wadayo Saciid Saalax kaas la yiraahdo garsoor ayuu Saciidna ku soo galay isagoo gaariye la hadlaya kuna eedeynaya inuu cabdiqays ka gardaray la safan yahay cabdiqays buu la ku eedeeyo la safan yahay Saciid waan gartay oo wuxuu leeyahay cabdiqays ba soo raacday wuxuu yiri Saciidna same maxamed xaashow soodintii afgooyaan aniga iyo safkeenii ka soo salaano sabadii tog dheer baan kugu badbaashay waa adigii sadcaale maxaa taaka joog dabadeedna sawdkii heestaadii socnayd nagu soo sinaato saaxiib gudoonay silsiladii taxlayd iyo si leeydi meertadeen nibasaab u galiyaad adna soo sargoyso saansayahaagii si kastaba u garanay sudana hadraawina waxa uu ku sugan yahay warka aan ku siiyay mawjada sareetu kala saydhayaayo adduunyada sirteedu sahdi ugu jiraayo Soomaaliya xumaan iyo saxalada wareegu kala soocayaayo murtibuu u soo moosan qar kale ma aadee aniga sokeeyo xaalkiina sugaye sida arrintu ila tahay wuxuu ilaahay raawi waska mashquulo waa waxa kale ku jiraaye aniga labada yar firaaqo leh aniga aan ku jawaabteeda ma qabo aniga sokeeyo xaalkiina sugaye sida arrintu ila tahay sida arrintu ila tahay saaxiib baligo sadar dhaafi maayo balse waxan kayla maqan saldhigeedu wuxuu yahay gaariyow sideedaba rag hadaad la socotay arrimo isku sheega laba uma sinaatay gata waa la saayaa xaqa waa la sooraa sida cali saleebaan ki quma la siiya cali waa ka hadraawi siiyay saasugulay saldhigeedu wuxuu yahay waa godob sandahan iyo surya lama filaan ee sida taal bishii hore waa saan wacnayde
سعودي السهوية سلالة مريا صرمطية شيء أرمها سرقعية سكلي شيء حاجة هي سلاطة سلقة وحي هي سحر لي دنتي أما سعود ككولبا حال كاترتي سياسي ففعله سي ساحب وقيد لو ورقني سيمها سكير بانو يلون كلام لا سعون بانو قص عبتم أيه خاصة مين سلقة وحي هي بلو في رصاص هذا خذا نك عرض صفنت هي صدق شيء معها صوت تادو أرادة بورها سنتو دي سلا عادو فوشة دي كنا أصيدا سدك جوا ناكسن سلقة وحي هي بلو في رصاص هذا خذا نك عرض صفنت هاي الدنيا دوسيدو يروح حماكم السجنان وسامر مود ما نو روحي سبولة أسرق وداكتان سرانسير مركز من الله كم السياق وسالك ما دافع سلقة وحي هي ويل سيدي سبوا الله سرايو أهل الله مسافة شيء كذا حسيجني سحر هذا للجور سدي حبها السنتو دي سرتشي جيسة شوكتنا وسامي جيسو سدا وخيلا بيسجع كسوية هذا السبب أن يالبور لما صلوشه لو كيس سؤالات عن تباح كسية سالفضيت كوا كيد عالة بس في سب وسدا قرو سلقة وحي هي وقتها السبيري وسقد جيسو سد حوي يقولي مرة ما يسروبيني إن كستاني سباد يسودين تنضاقين mid waliba siday tahay waa lala socdaayo sumad baa ku taalo sinjigu abaadini sumalkiyo laxdii dhalaa lagu soocanaya saligeedu wuxuu yahay ma og tahay sabeeri waa saqad dhageysto saddex weeye waliyo marra may saroobini in kastaanay sabad iyo soodinteena daaqayn mid waliba siday tahay waa lala socdaayo sumad baa ku taalo sinjigu abaadini sumalkiyo laxdii dhalaa lagu soocanaya waa hagaag saligeedu wuxuu yahay ninka geel suryada hawd ama saban nugaaleed ama sool qadaadeed ramadkii ku soo sheegaaroodii ugu simay sifaarkiina uu baxay anaha barsaydee qotqosaday sifaarada doob saraara weyn iyo sirsir baan haduu yahay inuu jinagu sixin yahay sida ma ogsoontahay saligeedu wuxuu yahay Soomalhaad abaareed beel saxal ku raago sahankeedii uu yimi soo helay tu roob loo laansaaray jabadkii geedi sayr ma weydaa saanqaadka awrtiyo socodkaad ka garataa bala laguma seexday saadaashu waa door saligeedu wuxuu yahay ninka saylac ka jira ama sabada waahen ee aad sugaysaa safety waa mar safety waa mar waa saawir liido ninka seedu xoog tahay muruquna sar adag yahay meel kama sarayso saddex wala aanan marin sida loo ogsoon yahay kama samata baxayo taladu ku sheega waan gartay waxba ka cilmayso saligeedu wuxuu yahay doonidaba laba seeb aan geesu wada socon kuma saama qaado sahal uma karaarte adoo jooga subax hore fiid looma seexdee saaqada dhalaysay uu sadkeedu dhow yahay sida aad u leedahay noqon kari sargooyi saligeedu wuxuu yahay adaaseen cadaayaha baltabaaxisiyo adaaseen cadaayaha baltabaaxisiyo saddex jirku ma ciidma sareedadu maceeba sarar ari ma feenba sujuuruhu ma toosba ufadoo ku saaqdiya saxan saxa udgooniya daruurtoo sinaatana miyaa roob ka soo socon sanadii cabanaya maalmii saqanaya su'aashoodu waxay tahay saxashadu ma dheefba suuxdimu ma gamaaba sumbayguna ma dheregba saligeedu wuxuu yahay u dambayna saaxiib waxaad soo balleedahay ninba siduu u eegaa waayo u saaqa waxba ay isu sumayo saqar bay baxayso saa dambe ma dheere saddex qayd baftaayo subaaciyadii dhalashiyo boqor baan ku saariyay sida salaamidlaahawd xaragaad ku socota waa ka Saciid Saalax Ahmedna halkaas soo gaariye isaguna kala fadkudi waan gartay inta markii la yiri waxa jira baashu laba dhinac weeyo oo ragna warag iska madax banaan marka qaar dhaliilaya ama dhaxdhaxaada ama cid la safan ragna waa rag isu xidhano tan hadraawi Cabdiqays ki bilaabay oo kale labada nimanka oo iyaguna mar dambe isku soo noqon doono isla jabi doono iyagu way isu xidhan yihiin waan gartay halka markay maraysay waxa soo galay nin kale oo la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Riiraash waa imka ku sugan magaalada Djibouti waqtiga wuxuu joogay Riiraash Hargeysa oo macalinka ah soo galay heesta uu bixiyay sargooy Riiraash isaga waxaad moodaa inuu Hadraawi iyo Cabdiqays midba wax ku dhaliilayo xagga damana gaariye iyo Saciid Saalax kaga dacadabayo iyagana meel midba wax oo ku dhaliilayo wuxuu yiri Riiraashna saxarlaan arko waxay tiri saaxiibada garan ragga siinka curiyeen basawdka dhiibtay waxaad siin salaam guud safka wada khiyaarta kolka xiga sidaan ahay sadarkeeda mariyo usug waxaan ku noolahay siday qaar u sheegeen salfudaydu maan dhalan cunta sixirtay maanihi samir liidashanada nimay soori qaadaa waa seefi qaadaya Soomaali weydii maan oran sabool nacay waxaan idhi sad quureed iyo soor nacaybeed subax aan ku gaarsiin saddex magac Ilaahay soddon horaan ka joogsaday sabada Djibouti ninka sare aad seegtana ma saarin aragee hay saafin meel kale ninka soo socdana waxaad oran wali waan ku sugayaa samirkiina ma gabin walaw sayma aan galay iga silaahay sahankii barbaa yimi sidaad sheegtay nagu diid wuu saloogay qaybi qalankiya saxiixi
wuxuu yidhi sabaan hore dadku wuu sinaan jiray wax saboola ma lahayn saraanseera muu jirin waxa saad la keenana nina saa'id inuu helo uma sacbatumanay surmiga iyo abaaraha innagaa samaynaye xagga sare kama iman hadal lama sudhnaado oo lama sariige in wax loo sargooyaa waa xaggay u socotaa samaayaha rag kale qoray ima gelaysa sooyaan surusuurta madarka iyo dhirta daalasiman baa u maraysa surimada iyo suryadoo idil aniguna sidaan qabo hadba waxaan sad gaadhsiin ubadkiiyo saboolkoo saxalkoo aan reebaa waa xaggay u socotaa suurtiiyo qiyaamaha ninkaa soo dhoweeyow ninka samayda qiijee kii siniinta loo waday dadka kale u saafow ninka yidhi sidii hore safka weli kamuu tegin duqasaba wanaag yaal seefaha u haystee inay saawir tahay garo ma mid eega salalaa kolkii hore sahwiyey baa sina loo wadaynba ma mid sidig irmaaneyd hawd sare ku maalo sabadiisa qaar kale gaajadu ku solataa ku su'aalay adigee sidee baad ujeeddaa weligayba saakaa subax layga tiriyaa sunniyihii basaasaan subagii ku dhaashto saadaasha kaan qabin waan ka sacabasaydhe adigaaba saaxiib sarsaraayo maydkee waxba saar ha ii tumi gaariyu duraya dhinacna siciid saalax oo leeyahay seeftii uu maarta ku sheegay ka duraya xagga horena hadraawgidii saxarle yidhi hasalugin qaybaha ayuu ka duraya uu leeyahay saankii wuu salugay qaybii cabdiqaysna ka duraya salfudayd maan dhalan tiiraashna halkaa ayuu la maray intaasi markay dhacday waxaa soo galay isna nin kale oo la yidhaahdo yuusuf jaamac yuusuf canfar yuusuf wuxuu isagu saaran yahay cabdiqays waxaanu aaminsan yahay in jabuuti gobonnimadeeda iyo xorriyaddeeda laga hadlayo oo cabdiqaysna hor taagan yahay halkaas isagu aaminsan yahay riiraash qudhiisa saasaa ka muuqata yuusuf waxaan filayaa isaga laftiisa waqtigaa inuu xamar joogay wuxuu yidhi yuusufna iskii nin u sodcaalo sirba aan lahaynoo suufiyo wareer qaba sahankaba ayaa u diray ayaheeda saxarliya waxa ay ku sugan tahay yaa su'aalay qaysoo soo waray ayaa yidhi surmaseegta weeye sidaa taa ku dhaafo sanadkeennan maanta ah subxiska iyo heesaha saxarlaba ku tacalluqa waa muruqi laba suul nin kastaaba siduu rabo aqoontiisu siisana cabdow ha u sifaystee warka aan ku siiye anigu waaba sahaydaa sida saynla aaroo gaajooday sabanoo sabinaya baaqaan sida saynla aaroo gaajooday sabanoo saqadhii baxaysiiyo sabinaya baaqaan hadba sara fadhiistaa hurdo waan ka saahiday waxaa salalka igu riday aan la sirisarqaysnahay tira 80 kuna sadkii ay lahaayeen sulo laga maroorsaday laga seexan maayee surmigiyo abaar suluftiiyo abaartiiyo surmigiyo haraadkiiyo midhahoo la saydhoo lagu gaadho socodkiiyo waxaan saatir tuugnaba markii ay samaatee sareedadu ay dhalatee seeftiiyo bilaawaha galka aan ka siibnee suruf laga afuufee faraskana sitaac iyo heensaha la saaree susun loo dhaqaaqiyo la sugayo siigadu inay sare u duushaa ninka yadhi sal guurtaya saadaaladii iyo yidadiilasimadii labadiiba saydhee socodkiina gaabsadee sacabkii qarribaya malaa wuu sahwiyayo sahal bay ku dhaaftaye mase oga aqoon liyo halistuu sameeyey inuu nolol dad badan sigay waxsuu noola siman yahay sabigii carruurtii markay wada safaadeen siinaanyadii mulac ku sargooyey leebkee sarkaftiga jalba u riday duquntan sideedaba sarar loogu riday ciid sadbursiya moodina waxaan anigu soo siday cirkoo isaga la mariye sumadeenna caanka ah samaydii ku joogtee xaqaa gacan sarreeye sina uma nagaanee safarkeenna kaaxiga siyo lawda hoosiyo xamarayda sare iyo markaan saylac soo furo tiqilsii roggiisi iyo sanaageeda oboq iyo tojarrana ku soo simo kii yidhi ha sugina iyo kii yidhi ha suginaba sida yeeli doona sidiisaba wankii weyn jeeraad sadqaysoo dhegta gawrac lala simo sare wax uma eego ma arkaayo samadee sideedii guyo hore sudunguuradeennii subaxaa wixii nool cidda socodka lagu tumo marka saxalku uu baxo balaan eegno sida taa ninkaasina halkaa ayuu isna la maray taasi markay dhacday waxa isa soo rogay cabdi aadan qays mar kale cabdi markan hadraawi la hadli maayo raggan dambe heesahoodii baa ugu tegay jabuutiyo wuxuu dareemay in muduci lagu yahayoo eedii oo dhan isaga loo xambaariyey oo laleeyahay wixii la doonayeyba cabdi qays baa hortaagan marka isagoo arrintaana ka gacan taaganaya raggan dambena u jawaabaya ayuu mar labaad ku soo galay raggana uu kala sifaynaya qaar isaga laftiisu eedaynaya wuxuu leeyahay ragga baasha qarbiya waa nooca ragna wuxuu leeyahay iyagu si wanaagsan ayay baasha u hadleen hadhow waxa ka muuqata raggii leeyahay si wanaagsan bay u hadleen inuu hadhow haddana eedayn doono wuxuu yidhi saaxiib hadraawow markaad saxar la tirisaan suuban kaaga celiyo sawdka aad ka tidhi iyo maqlaysa darrada adoo kugumaan saluugin adigu maad simbiidhin gaariya ma seegin ogow cali saleemaan isna si xun uma hadal
waxsaan diiday saaxiib safka kula wadaagee siciid ugu horeeya murtidii sirgacaye waxa salalka kiciye ma la socotay riiraash suma seekada u dhigay afqalloocna muu sugin surinkaan marayno nin 9 jiray oo hadal siigay weeyo tiisi uma sarayse Soomaalida ma caayin wasraxaya Soomaalida ma caayire ninkii soo socdaan yiri dhulkeena Soomaaliya ka ima sokeeya dibba la isu soogay sadka qaada hawshan taladii ku siiyo saakana la taagna samir dhaway hadaan yiri waqtigaas sirgacan baan sidoo yahay tilmaamay aniga maxaa day saarsan saadaashu man ka hadlay saboolkaan tilmaamay halka saxal ku yaalana taam yaa la socota si leeyda waxa dilay socod baradka heestuba saaka ugu horeysay surinkii hadraawiye suryadan anigu maray suxul baa u aasane taam yaa la socota waa Suuriya maasadu sama lagu wadaagay sunninkii ku darayo aday sababi taade sida ma ogsoonti kuwa gabayga sirayo si xunu sheeg ma ogtiin sixir waa ka darayo waa sida habkiinii waa saxar la sheekadu suuban iyo jacaylkiisa kala u rogati waa Suuriya maasadu sama lagu wadaago saqda dhaxaad u toostiyo saaco looga faashiyo sahan buu ku xidhan yahay kuwa gabayga sirayo si xunu sheeg ma ogtiin sixir uu ka darayo waa sida habkiin habda qaysna inta ayuu ku soo noqdo oo aad muddo in qolyahan dambe u jawaabayo suuna idriibiyo halka markay marayso waxa soo galay haddana rag kale iyaguna oo laba nin oo kale oo iyaguna iska madax banaano si leeydi ku soo biiray Ahmed Maxamed leeyada soo galay oo isna waqtiga joogay la foole macallimiinta heesleeyado waa iga su'aal guud ayuu isaguna ku soo galay wuxuu yiri heesahan silsilada ama sadan sifaha badan su'aalaad kan dabayaal ragga soo diraw nabad marka xiga sakalihii lagu sirayay doqontee sabigana ka weyneed war miyaa saluugteen waa maxay sawaxan kani kafta suuban weeye samow ha iska socotee helada salka u dhiga surmigiya abaarteer isaseega waxa dhigay Cabdu Seef la boodiye sidigtii hadraawiye Suuriyada la ceebsaday ya ruuxi saboolihi aanatee la siiyo sid ka dhalay ma deeqa saddex ariga reer lihi saxsayd ma gaadha geedkii saroo baxay sawiri ma laga daa arigii 30 aha saka goys miyuu yahay sibiq loo dhaqaaqiyo hindi waas ma socodba geeli 9 saba ari ma daaqa saldhigeedu wuxuu yahay wayga su'aal guud oo marka dawladda Soomaaliku bahasha ku jiro saadaasha khayrka ah socotada wardoonka aninka siisan waayo kii saxar la guursaday ma sitaarad buu xidhan hadii warankii sooyaan loo doonay samaydii macalku salaandigan sursuruhu markuu dhaco isaga dagaal gali sadaqada iyo dhawrtadu soo dambaray miyay jiri haw doonta sarabka isqam uu ka nabad galin goortu suldaaraysan bireer xuduudayn saligeedu wuxuu yahay wiga su'aal guud ruux arag wiga su'aal guud ruux aragu siimo indhuu ay sawaameen guruxyada siraad kale rabbi saacad kaga xidhay ma socda habeenimo sanadaga gaalkii siday diintu leedahay eeba ma sujuuda waa eray su'aalahe saxariir ma nololba sixi waaye anigu sakaraad ma raysta kala saari waaye sadaqade masiinba saban xume haduu dhaco saanli ma geeda saar lac ku yeelana saawir ma goysa ma su'aalo ma sareeyo aadmiga ma su'aalo ceebaha hadal saac ma buuxshe waxaan saa kale yahay wariyaan samaha laga tagin iyadoo sidaa tahay ninka saxarla laga dhac yuusafihi dhig yaan si xal lagu karin yuusiisan qaybaha saamiga rag kale dhigay yuusaawasaaway waxa ay ku sugan tahay yuu eegan sumadiya laansaarka beenta ah ilaa waa sidreegame sayaan ku dhaxay saxarla iyo isaguna leeyahay isaguna wuxuu safkii hadraawiye saxarladii iyo arintii buu isaguna ku noqday daba socda محمد سعيد عثمان ويدار الله يرحمه اسمه ودنتي الله يرحمه ayaa soo galay wadaar adraawi sidoo uu sheegay wuxuu garaaci jiray siin leeyda sidoo garaaciyo buu waardi anaan ku darab hashay balanayga geelba sibir gudan ayuu ku soo galay wuxuu yiri sanadahan adduunyadu way sayma badato siinay xogteedii iyo sanqaraha fiidnaan iyo waxa soo raglaayay susumaayay dhiigii waxa muruqa seedaha xabaduhu u saafeen ninka suurka tumayo ma waxaan ku sulin baa si leedu waxay tiri ninba soodin kale iyo halku saakay joogu seeraha ka qorto rankiisa saaray adiguna siraade saxankaaga noo sheeg wayahay si leedu waxay tiri saxaada roobka saakaba ku haysiyo waa saaca dunyadu bala kugu simayso salaankay ku korisaa kula siiban doonee adiguna siraaday saxaydaada noo sheeg si leedu waxay tiri waxaan sugayay saxarlaay inaad gacanaysiiso sahlana umuurana sunta wada afufnay mar hadaad saboolnici waa saban xumaaday sii daysay geenyada samireba weeye
siilaydu waxay tidhi samawada hadraawow ninka maanta salalee samir qaadan waayow waxay suuban leedahay halkan saaka joogaa waa saba ayaan liya guri sayrma weydoo rabbi ubax ka saaroo ninba meel ka seertee waa eray su'aalehe siilaydu waxay tidhi bishu waa 9 waa sanad kaliileed waa sool abaar iyo saranseer gujiilaal waa sagal guhoor iyo surmi iyo haraad loo siigadii dalluuntaa samadiiba awdoo malaa waaba siganaye eebow sidii run siilaydu waxay tidhi xalay baan saqdii dhexe socotadii dhowaantibi sahan aanu kulanno inta saaka joogtaa tahay geelba sibir godan waan helay sirtoodoo waa dood sandahan iyo murtiyaan la suginoo ninba saabu geliyoo ka labaad ka saaree waxay suuban leedahay waa aayad sare oo waa silsilada naaroo waa samaydii muuse iyo xadhig lama sitaanoo ninka si xun u sheegaa kama samata baxayee ila soco wax garado waayahay siilaydu waxay tidhi samawada hadraawow ruux jacayl sawaaboo caashaqusa kala maray inuu soorta kaa cuno ama socodka hidiyaa suuroobi maysee dhaaxaan samraayaad sirta dhaadi weydee nafsi meerta sugayaa sodonguuradiisii saaka loo walqalayaa waa sahayda aadmigu sama kugu qadariyaa ma haddaasa waxankiyo waan soo socdaa kow saxarlaay ha fududaan cidi kugu sacabtumi haddaan saami kaa maqan seeftaadu kuu goyn ma baryaa rakaasiin geelaaga sula lumay siilaydu waxay tidhi sidigtaa dhalaysee dadku wada sugaayana waa horay sadkeedii 3 laab u qaadoo wax kaloo ka salaglay ku sidaa calooshoo sida faalku leeyahay kollaysayn cad maahee allow sahal umuuraha siilaydu waxay tidhi sacab xeel la'aaneed miyaa laga sanqadhiyaa 30 beri adoo qaday soor quur la'aaneed sahal looma qaato guul laguma seegee intay xaaja sidan tahay ama qoofal sudan yahay seetadu ku xidhan tahay tala haysa sidatoo mid ay tahay sariya caad hala saari waaye hadal waa 3 mar waan gatay halkaasuu ku joojiyey ninka la yidhahdo weydaar waayahay halkaa markay maraysay waxaa haddana mar labaad isku soo rogaal celiyey maxamed xaashi dhamac gaariye oo markii hore iska dhexdhexaad buu ahaaye iyo wardoone imika ay siciid saalax isu muuqdeen siciid saalax la hadlaya kana cararaya inaanu cabdiqays shaqo ku lahayn oo cabdiqays de waa ninkaa eedaysanoo ciddii lasoo safaadsaa dee waa dambiilayaal markaa wuxuu le waa anigu cabdiqays nin shaqo ku leh ma yihi haa sida taa ayuu markana soo tiri wuxuu yidhi sabadii tog dheer baan kaa soo salaamee jaallahay siciidow ina saalaxow nabad marka xiga safkeennii waxa ay ku sugayiin iga sii war buuxo maxay saaka joogaan marka xiga silsiladii sii laydi dheerayd waa taan sargooyee saabka aan u geliyey sodoh weeye idhiye mar haddaad ka saartoo maryihii ka siibtay soobir tahay islaantii wax kalaa ka salag leh ina saalaxow nabad sida taal waxay tidhi heestaydu waa siin waa sagal arooriyaad waa sahan maqnaayoo beeshu ay sugayso waa sawd nin weynoo sahwi aan ku imanoo sahay weeye dooroo dusha lagu sitaayoo sidaad mooday maahe ina saalaxow nabad sida taal waxay tidhi heestaydu waa siin waxa saxay abwaanoo sayidka u abtiriyo waa sadkii qabaanoo waa tulid la soofshow raagaa salaaxoo sifo waxay ku leedahay murtidii salaanoo sidaad mooday maahe ina saalaxow nabad sida taal waxay tidhi sange ruux la loolaa surmi kama fogaadee samawada hadraa waa six ilaahi gaadii af soomaaligaygaa malaa kaa sarreeye af soomaaligaygaa malaa kaa sarreeye sadarkaan ka heesiyo af soomaaligaygaa malaa kaa sarreeyo maansada sal iyo baar maad helin sirteedoo sadarkaan ka heesiyo sheekadaadu siday tahay waysa seegan yihiinoo jinnaa kuu sanqadhayo saan kuu garaaco igu kaa sallidayoo sawir baad run moodiyey ina saalaxow nabad sida taal waxay tidhi dadka kii sokeeya ama soor wadaagtaan surya looma qariyo sunta aad u qoshtaa surka lala galaayo kula siiban doontee ninkaad igu sidkaysee ila soo safaysiyo dembigaadi saartee siciid igu qiraysana kaa siisan maaye saaxiib albaandhe sida taal waxay tidhi aduunbay saluugoo buuri la salooshee naf jacayl sawaaboo seetada ku giijo waxaan ahay siloono saxarliya danteedii kama seexan weliyoo darteed baan siciido uga soomay oonto xeebaha sintoodaan saanadaydii dhigayoo jeeraan sal gaadhana furi maayo suunkee ina saalaxow nabad sida taal waxay tidhi salfudaydku qays buu saaxiib lu gooyey seeflabood inaad tahay caadigama saaree goortii sabeyntii marti loo sadqeeyey sanadkaynu joognaa waa 9 guuree taarikhda socotaa ma midaan ku solinba sida taal waxay tidhi duqa saba wanaag yaal soorkiisa maari iyo hadday saawir kula tahay way kaasi sibatee saamigaad lahayd iyo nin sadkaagii qaatoo kaa raba siyaadana seeftaada mooye inaanay sabaaliya saadaashu celinayn sidaa ma ogsoonta
sida taal waxay tidhi candhasaabka dararee maraq lagu sakalinee ibtu siiban tahay ee dadku u siman yahay sifaarada ka buuxsaday haddii uu war sugan yahay waa sareede eebe ina saalaxu nabad sida taal waxay tidhi tabtii inaysan weynaan xaajada garsooro labadeenni saaxiib waan kala xaq siiyey aduunba iska salaaloo faallada sirgacayo hadalkaygii saafnaa soofdaran habowshee waxbaa kuu sunsumayo sidaadii ma tihidoo malaa waba sigatee suufiyaasha weydii saarkiiyo dabashaba iyagaa saneeye sidan kuwa lagu qaatay malaa waxbaa kugu soo kordhay waa gartay ya aye sida la garan karo ama la filayaba Siciid Saalax ayaa isaguna soo noqday isagoo markaa gaariyeysna u jawaabaya saddexo ma sida la yiraahdo ayuu ku soo galay wuxuu yidhi saaxiibka weyne soo diray salaantow anigiiyo safkeennii ladnaan baan ku suganaa bulshadii sinaydana sagootiyaysiiyo idinkuna sideetiin maxaasaa ka joogtaan dabadeedna saaxiib sidigtii garsoore sawdkeedu toosnaa waadigii saluugay saldhigeedii diiday saddexadan wardoonka ah saddex qodob lamaana ah mid waliba saddexan yahay sagaalkaba guddoomo wax ku qaada saaxiib waad soo taagan tahay wax ku qaada saaxiib sinta hore hal koobaad sida uu dadka yidhi saaxiibkay rumaadow seeraha jacaylkow ma og tahay sokeeyow sabadii la fooloo cilmigiisu sumayiyo saldhigii aftahamada siinlayda curiye safka haatan joogiya sanku neeflo oo idil markii aan su'aalaba waxay igu salaameen saddex oga tusaalood sawdkoodu wuxuu yahay dabadjoog sakaaradu saalada ha aastee dabadjoog sakaaradu saalada ha tuurtee sida ay isleedahay carraday dul saartiya siigadu ma qarisaa saranseer gujiilaal cirkoo siin la mariyey sagal iyo daruur iyo caadaanu saarayn siraadkeeda qoraxduna sina uma qarsoomee sabasabdhadaa baxaysiiyo damal saar ku yaaliyo suuradkii bacaadkaan soo laaci waayini sababtuna waxay tahay sahalow ujeeddada labadaadii seefood sina uma gudboono anigu se sidaa tidhi saxarliya danteedii si qudhaan u eegoo sangaabtaan ka qaatay sangalaba rogaalow hambalyaan ku siiyey hal labaad su'aali meel baad ka seegtay saaxiibkay rumaadow sargooyaha aqoontow soo urusho beelow ma og tahay sokeeyow sakatiga wixii dhigay dadku ay ku salaleen haddii aan sarxaasana suryo qoolan moodo haddii aan balsaafana sallaxaf kudhag weeye mar labaadaan saab iyo shaqa low sameeye sida taal hadday tidhi sida turubka baandhee saaxiib balyeeloo saddex maan fireeyo kii ugu sarreeyo sideedlaha karaawila su'aal lama filaan iyo sumadiisu waxay tahay xaggee buu ku sugan yahay muxuu soo sidaa hebel iyo sarakacaagi dheemantana sideedlaha sawir laga cabsoodiyo saymaa dulyaal saddexlaha hadhiinka ah sirjigiisu wuxuu yahay sabeen gorod madowoo dogob lagu solaayo siniintii ka duushaa samadiiba qarisay soo noqoshadaadii ama labasadlayntii may sugin turxaantoo sirta maxamed xaashow sare looma qaadee nacabkii wax kaa sida suba salaax iyo sasabaad ku daydaa marka uu ku seexday limintaysa siyaa saanada la qaataa seedaha la gooyaha jacaylkaa ku siray oo sanbabada ku shiilo inkastuu salkaa yahay seetada ha goynoo miyirka keenada ha saydhinoo miyirkana ha siibanoo jibayay ku suuqine sidii ayuu falay samirkana la'aantii xaajadu ma sugantay xaalkii sidan u weyn deg deg looma saafee maamo horaadada la saaboo dambeedadana seetiya maraq lagu sakalayoo ku sifowday darartana inay tahay waraan sugay soo jeed habeenoo saqda dhexe habeenkii cirka sare u eego laxo hoos iraatiyo diga joogo hoos siman inay diri sagaaliya tahay xilli samuulada sidaa ma ogsoontahay adigoo aan sakatiin aan kuma su'aalay gaariyow sabeeni mar haddaad sadqayso saman hore ra kula cunay suunka iyo bilaawo habal maxaad u sidata ila adigan yidhi dee sabeyntii bere hore rag loo sadqayay martiya saddexaduna waxay tidhi sidaa looma jiibshee saaxiibkay rumaadow siraadkii tog dheere samsamkeeda jiidee soo daayey maaxdow murtidana sameeyow sinlida ma og tahay 18 bay saddexaadu ku joogtaa sugaanta meel buu Cumar uga sameeyo Samow Cabdikariim baa siinadeeya danankoo socotada u qaybsho siniin iyo siniin bay wali sii jiraysaa waa Cabdikariim jiiro codadka sameyn jiray wali sii jiraysaa xeelo weeya sixin loo sati lagu shalqaayo ninka subaga see si jirsan u tiriya kama sabata baxaye safka haatan joogay sifaheeda dhuuxiye abwaanada sameeye dhac kasta ay ku siman tahay sanadaha dambe taa saaxiib xukumaye haddii aad sirqawdana lama toobad seege waa saddex halgalaya sirjiga ka adke sawir lama amaanay si kastaba u roonow sugaanta xeer baa salka loogu joojo carra laguma saacsho suyac laguma beero sirsir kuma tisqaado cay laguma seere waxaan sidan u leeyahay aday kaasi sibatee murtidii salaan iyo sahaydii ugaaskiyo sayidkii darwiishkii mid ay weli salaaxeen cali dhuux sifeeyo ina mireysar gooyo timi cadasa waxankii ama saxay hadraawo ina saalax ku habboon sida uu galaal yidhi sida taal codkeedani uma suurada eke garta inaysan weynana
sakal baad ku tuurtoo saansaamihiisii salsalaabi weydoo halqabsiga sibiidha la xaal baan ka siiyey soomaali baa tidhi ninka sidan u faana waa camal risoyoon sahlow isnuugtee sadarkayga maansada waadigii isuushee saar igu dabacayee jinni igu sabaxayee saxal igu gumhaamee salligii watiinkee suufiga bulaalow walbahaar ha sidanoo maansada ha suuqin oo yaka ha saarine adiguna basaame waan garta siciidna halkaa ayuu isaguna ayuu dhigay ka onkooday ninkastoo maansadii hore Siciid Saalax iyo taniba aad moodo inay heesaha intooda kale ay ka dhaadheer yihiin waxa ku soo noqday Cali Saleeman biti oo markan saaran markii hore haduu dhaxdhaxaad iyo wardoon ah imka gaariyu saaran waan garta dhinac waxaad moodaa inuu Cabdiqays kala yar socdo dhinacna wuxuu kala socdaa Siciid Saalax Siciid Saalax iyo Cabdiqaysna way sayaan oo saaxiibaha waa markaad bahasha arkayso inay marba dhinac waji dhigayso waliba dhinaciisa gaarayso Siciid Cali Saleeman isaguna wuxuu soo bixiyay sida taa wuxuu yiri gaariyo salaantii sawdkii macaana aniga iyo safkeeni nagu soo sinaato waxa siday dabaylaha waa soo celinay xaq iyaga sareediye waa siir mawdiiso lama dareen la saqbarkii habeenimo soo kolaad murqaanayd sida dhidar ku sarakacay onkod iyo sanqara roob adoo salalay galeen dhexe adoo salalay galeen dhexe inaad goysay seetada soo gaar warkaagii xamar suuqyadeeda sida taal gardarana surma seegta heesaha dadku wada saluugo sare kama filanay ninka dhaartay shalay subax saakana calaalay adaa sax u yaqaano bari safar u raacay saaxiibad raawo gaariyo sideeyahay ma dhamaasada halkii haye soo kan dabinka soohdee murtidii suriyay qoolka suray naftiisii sida taal gardarana sunta khaayin qoosha waligiiba sababtoo sixir uu ka daran yahay si wuxuu tilmaamay Cabdi Muuse Alfuduudaan ee saxiya maanbuu isaga salsal ahayn sakatigu ma fiicne sirta wuu hulaabo ku soo diray dhambaalkee sirta wuu hulaabo ninba siduu u qaato ku soo diray dhambaalkee waa taad la safatay xiniin lagu masaraye waa kay cagaari yar diinayay in Cabdiqays la socdo waa taad la safatay xiniin lagu masaraye Siciid ha iska eedayn wuu sugay jawaabtii saaxiib shaandhe sida taal gardarana diirta saaca maraysiya cayr soogan hawd iyo waxaad saadinaysana rabbi nooga sahliyo balanama simbeedhini sagal baan u maala iimaansad weeye kii subaga daadsow masangaagu raata salu joogi weydaya ninka soo socdana dhowr wuxuu soo sidana arag saadaala wacan buu rabbigiisu aashaye Soomaalidana heed kulli seegi mayse sida ma ogsoonta sida taal gardarana heestaada siinka adiguba sida tiri sodohan mar layniyo haday soo birtaa iyo sodoh qaawaniya tahay ina saalax mu furan yana aragto kula sibiq hadalku ka tagin raaga iyo salaan iyo sayidkii darwiishkii sulamuudku awdulay goormay salaaxeen af Soomaaligaaguna cidna kama sareeyo dadku baad la simanta waraan ku siiye sida taal isdhaafto dhakhtar saari waayo sancayn waa doctorku subana hadraawna siishu aysan maayo hadal soofi weeye qabriyada siraatiyo bal saacada dinki malaga siiridi waa u jeeda gasiiradi u jeeda waxa moodaa Siciid baynu kaga daran yahay Cali Saleeman gaariye sidoo ula soo hadlay sida muuqata qadarka yar ee ka hadhay cajaladani ma aha mid aynu ku dhameystiri karayno ama inoo wada qaadaya qaybaha inooga hadhay silsiladan siinley waxa lama huraana in loo gudbo cajalada labaad ee taxanahan siinleyda sida awgeed la soco cajalada labaad ee siinley بسم الله الرحمن الرحيم انتنا لغيسانيساي وحسن محمد يوسف عثمان عبد الله يوسف شاعر oo mar kale idin le ku soo dhawaada cajaladana waa qaybtii labaad ee silsilad suugaaneedii siinley oo ka kooban inta la og yahay 28 heesood oo ay isweydaarsadeen 13 hal abuur oo kala ah Cabdi Aadan Xaad Cabdiqays Maxamed Ibraahim Warsame Adraawi علي سليمان محمد وعلي سليمان بدلوية قاني حاجة أحمد أفقلوع محمد حاشد عقارية سعيد صالح أحمد محمد عبد الله الريراش يوسف جامع أو يوسف عنفر كمك على راب أحمد محمود محمد سعيد عثمان أو ويدار لوية قاني حسن علمي إبراهيم أو سليمان إبراهيم قال لي إيو قبل كلية إيو سلسلة كقيب قادتي أو لورينشري عاشا جامع ديرية
halkaad ugu hagaagaysaa waa hooyga ururinta suugaanta ee cumar yare istiiriya magaalada hargeysa waana kan yuusuf shaacir oo mar labaad inooga sii anba qaada taxanaha siinleyda halkii ay inoogu joogtay cajaladii koowaad markii cali saleebaan halkaa uu dhigay oo aad moodo inuu gaariye ku yar laaday waxaa ku soo noqday cabdi aadan qays oo sanu soo aragnay 3 heesoodoo hore ku lahaa marka laga tago aakhire xaggaad naga xigtaa siinleyda 3 hore ku lahaa waa run laba ay hataa isugu jawaabeen iyo mid raggii kale ugu jawaabayay markii afraad ayuu soo galay iminka wuxuu aad u eedeynayaa gaariye iyo siciid saalax waxaad moodaa bilowgii markii hadraawi lahaa sheekadu salfududana ma socodka qaarkeed kuma samafalaysa halla boodin seefta oo aad moodo inay digniin ahayd uu lahaa waxaagii waa la siyaasadeeyey tiibaad moodaa iminka inuu ogaaday oo uu dareemay in shirqool loo dhigay oo xaggaa iyo xamar laga sugayo oo aad moodo inuu iminka kacaankii leeyahay war arrinta balbaadho oo eega markaa gaariye siciid buu iminka aad u eedaynaya sirmaqabe ayuu usoo bixiyey wuxuu yidhi sarsarkayga midig iyo saaxiibkay caliyow axmed ina saleebaan sidiiqayga keliyow samaalow hadraawow axmeday ma seegina aabbihiina sidayaan silic nala jeclaynow soomaali oo idil jaalayaasha siman iyo doolow idi salaanaye intaan sayma lagu ridin ansaxal adduunyaad iyo solayga naareed ka sifeeye eebbuhu ha ka dhiga safkeenne hibahayna saaree waxaan uga socdaataa murtidaydii soognayd aanu dhaafa siinkoo sii daaya faraskee subxaankayna uumaya sifaha qurxoon iyo sarta inagu dheehaan simin aadmigeenoo sida faraha weeyo waa la kala sarreeyaa adduunyada sadkeedana qofba subaxu joogaba waa laga sadcaalaya waxaan uga socdaataa waxaan ahay nin saran oo been laga sameeyo qaar suxun u sheeg iyo nacab gudin ku saafoo seedaha la gooyo dhiiggiisu saaxiib togaguu sabeeye iyagaa saxaayoo kala saari doonee guddideenna sare iyo golwade ha lagu simo waxaan ahay nin saran oo daalacan la saaro hadduu sama ku baaqana si xun loogu rogaye iyagaa saxaayoo kala saari doonee guddideenna sare iyo golwade ha lagu simo waxaan ahay nin samir loo suryo loo hagoogo dabin lala sugaaye iyagaa saxaayoo kala saari doonee guddideenna sare iyo golwade ha lagu simo waxaan ahay nin sabanka iyo saadaasha mooye aan siyaasad gelin oo saymaha kalgacalka iyo saxarluunka heesoo lagu xidhay sabeene iyagaa saxaayoo kala saari doonee guddideenna sare iyo golwade ha lagu simo waxaan uga socdaataa anigiyo in ila siman dhalintii sudeen iyo joogtay sabada waaheen hadday wada safaadeen sacab wada cayaareen maxaa tayda uun suray ilbaasha waa la wadawaday buu leeyahay maxaa tayda uun qaar seeraheenna iyo gurigeenna seexdaa sididii xumeeyo sacabkii dhabqinaya ayaa laga sahwiyayaa waxaan uga socdaataa ragga hilibka solaya siniintana nacaye hadba sinuu ordaaye gaariye siciidow miyaantiina lala socon ina saalax waakii siridii qarsoonayd sababaa dadayseen sadarrada ku sheegay masagaal wajiili iyo casaanyada sideedaad gaariye oo sibqaysa waxaan uga socdaataa weliyada siraatiya suufiyada dawaafana saxar kama qarsoonee gaariye siciidow laba balo u socoto u saaxiibtay xumaha weligood seegto saada kuma heshiisee waa maxay sirtaa beri saamaha ku laabtee waa labadii nin ay saystay labadii saystay bas dusha ka sii maagaya maqaar saaca doorsho dad samaan u wada kacay kala seexinayo sun ku haystay uurkoo dusha subag marsaday oo sakalayay uunkoo xaqu uu simbiidho nafsi seef ku jiido kala saaribati waxaan uga socdaataa ogoobay sideedaba ninka ragi ma siibto suuradii ma guurto carabkiisa sare iyo calooshiis ma seegto hadba siduu u jeediya kama weecdo surinkee khaayin baa sal fudud oo saacaddiiba midabee boqmaseerayaashow inkastaa saqaafiyo salawe iyo been iyo sahwi aydu wadateen siin laydana ku sheegteen gaariyow sidaa tahay siciid baa ku dhaamo weli aan salsalin oo sabadiisii joogee sumad laba aflayntii adigaa sameeyo way kugu sar go-an tahay waan gartay labada isa saaraya soomaalida waxaan fari hadal waa si loo yidhi qof hadduu saluugana waa inuu su'aalaa ruuxii sameeyey saakana ma hayno weli waa la sugayaa madaxdii sareetaay waa inaad la socotaa sanadkaynu joognana dadkiiba isa sudhan oo gabay suubanaayo adigu aad si ula jeedaa sur inaanad marin iyo saba lala jibaaxaa madaxdii sareetiya xilsidaaga waxaan fari nimankaa sandahaya sadhaynaya hadallada soomaali gebigeed waa in laga sifeeyaa midna idi su'aalaye
sikhi miyuu qarsoomaa ma mas baa subxaanyadu siyaasadi ma hees baa siday xaalka leeyihiin arrimuhu sirgacanaa sara oo u fiirsada kacaankiibu afka kaga xareeyo ley war bahasha idinku soo gala oo nala eega waxaan meesha ku hayno waan gartay nimankaasi waa lagugu wanjalayaa iyagaba u dhib baasha oo bahashiibuu dabankii iska fogeynaya waxaa kusoo noqday isaguna maxamed ibraahim warsame adraawi oo isagu laba hore siin layda ku lahaa cabdiqays ay isdhaafsadeen waa run wuxuu lahaa saxarla iyo sidi qabax laakiin intii dambe aad moodaa inuu ka maqnaa ka rogo haddana saar ayuu kusoo galay imika waxaad moodaa cabdiqays inuu la hadlayo oo leeyahay waxba nimankan riiraash iyo siciid saalax iyo afqalooc iyo nimankii markii dhexe uu cabdiqays maagay war waxba nimanka ha ku mashquulina meel fog baynu u soconnaaye isku hagaajisa waxaaga oo cidiyayna mashquulin waan gartay ayaad moodaa imikan u leeyahay wuxuu yidhi sabkax oo haddana seeman oo haddana sulan sidkan oo haddana sagan sahlan oo haddana sudan sahlan oo haddana sudan salleh oo haddana sigan sillan oo haddana sugan subkan oo haddana solan waa marka dadku leeyahay nimanku tartan af soomaaliga ba iskaga jireen waa xaqiiq meesha wax weyn kuma yahay waa marka kuwaa la arko af soomaaligaygow lagu saari waayo wax sawaabo noqotaye maxaan kuu sameeyaa sideen dadku u fahamsiiyaa ka rogo haddana saar waa lagu sugaayo lagu saadinayee cabdiyow ma socotaa xeebaha sintoodiiyo ninka saylac joogow sagalkiiyo daruuraha wararkaagii saaraa xamar bay bishii soon saxarqaadu keentoo sahankaagii noo yimi sahaydiina noo keen xagga yaga sareediyo waa siirma weydee maxaad saa ka joogtaa ka rog oo haddana saar tiro siman 9 tuur 30 8 hoo waxa hadhay bal suuree masoba masaamba 3 iyo 5 waa kee sakalaha ha laga guro 2 sulub ha lagu daro guriga samaha lagu furo ka rogo haddana saar si leeyda maansada haddii saami loo dhigo dadka uma sinaato suugaanta hadalka iyo cabdiyow sargooyada lagu kala sadroonoo rabbi wuxuu ka siiyay sida ay la noqoto ninba saylad keenaya hasaluug riiraash ina saalaxa u dudi afqalooxa saamayn soomaali weyn baa xaajada la socoto iyagaa ka seegiya ka saxaya garan oo kala sooci doonee laba seeb la yeelkii ha kulluma sursuuraha sixirka iyo shan xubluhu ha ka dhaca salaankee xidha saadaadoo iyo colaadaha samaydaadu iyo jam waayahay alabaday ka rogo haddana saar gabadheena saaqiya samawada ku magac dheer ragsaluugla suuban lagu yidhi sumadeedu waa caan kula siistay baaruud adna haygu sare tegi ka rogo haddana saar hararada sal iyo baar lagu taxay sitaacee loo soohay baarkiiyo saddexlaha ujeeddaa dhigta loogu saabo marti samafalkeedaa koramada sigaal jiray loo sudhay hoggaanku safar baa la furayaa sooriyaa la qalayaa sooriyaa la hurayaa sumalaa la qalayaa xididkiiyo sokeeyaha laga seexan maayee socotada xididkiiyo sokeeyaha laga seexan maayee salliyada xariirtaa socotada u kala roga ruuxii saboolow xilku saari maayee saca maatada u godol saadaal ku noolow samirkana hamoogaan ruuxaan wax sidina shirka soo salaamow adigaa wax sugayee sarar iyo lag iyo badi keebaan ku siiyaa sacabkaa ku qaadaa mid haddaad saluugtana iimaansad weeye 3 baligaho isku darso ka rogo haddana saar sidig maqan ninkeedii talawow sar go-an tahay jid siraad korkiisa iyo suudaa la marayaa sannadaa la dhaxayaa sahay lagama maarmee ha la jira sibraarada ka rogo haddana saar saanteenna guudkiiyo suntu hilibka dhaaftoo sal waxay ku leedahay saableyda uurkiiyo sambabada dhexdoodoo maal baa la sarayaa sala looma baahnee kii seexdayow toos ka rog oo haddana saar soorkiiyo bilaawaha sinta midig ha lagu xidho faraskana silsilada iyo seetada ha laga furo seefaha lala baxo seeraa la furayaa wiil baa la sabayaa saryan baa la dabayaa xaajada sal fudud iyo sakatiga ha laga jiro sahliyaan wax loo odhan sahwiyaanu kala ridin dhulku waa sanqadhayaa cagta saari maynee socodkeennu xeel iyo ha ahaada 2 suul si rayaan la faalayn murtidana ha saafina ka rogo haddana saar maansadu ha socoto sida daad mahiigaan dhulka ha u sabayso kolba sabaha gaadho culimada salaaxdaa sangaha ugu joogtee ruuxii suldaarow gara inaad sabool tahay sodoh weeye xeedhadu ragna way u siman tahay ninka suunka taaftay ka sal gaari waayow gara inaad sabool tahay
waa gabadh su-aal iyo halxidhaale sidatee ninka abu sarmaanta iyo saddex qayda boqor kale kaga fura sindalagtee mala kaga sinaystow garo inaad sabool tahay hadraawna halkaa ayuu dhigay yaa ku xigay waxaa ku xigay soo rogay maxamed xaashi dhamac gaariye iyo markiisii saddexaad 4 heesoodoo hore waxaanu kusoo dhaafanay inay isdhaafsadeen siciid saalax waa run 2 heesood xaggii horena 2 heesood buu ku lahaa 4 bay isdhaafsadeen 2 isaga gaariyo markii hore salaan guud ugu horeysay iyo garsoor oo siciid saalax ugu jawaabay oo sadataal haddana uu kusoo noqday gaariye iyo 3 oo uu ku jawaabay siciid saalax mid hore oo ku jawaabay manager way jirtaayo waxa weeyaan garsoor marka 4 bay isdhaafsadeen midba labo qaba marka markii saddexaad buu gaariye imaka ku soo noqday waan gartay samirsiis ayuu ku soo galay weli waxaad moodaa inuu la hadlayo siciid saalax samirsiinayo xagga dambena waxaad moodaa inuu cali saleebaan laftiisa kala yar hadlayo wuxuu yidhi ma og tahay siciidow xalay baan saqdii dhexe cirka sare u eego sida dirirku leeyahay bisha soon markay tahay sabuux lagama heesee safar hayla boodine sanadkii marunbaa xajka loo sodcaalaa haddii aad sabool tahay sandullayni waa debed afku seefla yeelkii salu yeela sheekada ha ka degdegine ma og tahay salaaduhu midba saacad weeyo surmigiyo abaaraha waysadu sidaan qaba ku sax weeye ciiddeenni sahwiyey rukuucuhu kol labaad inuu sugo waa sadar hubaalehe kugu furan sujuudiye ma og tahay siciidow turubkiina maad sugin sibay raani leedahay baashe saar kuma odhan rankii saydh saddexlaha adqaadiya 8 lahuba waa biig haddii ay ku siidataad sukihii magaysoo saameeshay yeekii saaxiib maxaan qaban foorad baa ku saarane salu yeela sheekada taa lagula kacay ma og tahay siciidow sagalkiyo arooryada warka loo sarbeebiyo subaxdiiyo habeenkaa saaka loo garqaado inay suurtii dhowdahay sangaabaqa la dhaafsho siiga dhiigtifleeyoo sarka dhaban ku ledhan yaa saanad soo walwaasho siraadkii cadceediyo caad saartay nuurkoo waxay saxarri leedahay xidig sudan korkayga iyo ifaan sii ridnayn oo igu sabayo been iyo soco dhowra mooye layga saab ilayskoo safan baan tallaabada hadba suul u dhigayaa siciidow xogtaa dhuux sanka burada ha u jarin hadal kuma sulay sida waan sidaayo hoosii surbiyaanka ha u mayin jaalle mayla socotaa salu yeela sheekada googaas siciidow sadkaagaan ku duulo dadka kale ka sooro sake aan ka bixiyo sadqa ii xalaal tahay tu kaleeta suuree idan laysu soocoo safsaf loo tubaayo suma lagu ilaawo lagu sii dhexdaayee saadaashu waa maxay tub kaleeta suuree saaqadaan warkeedii kuu sifeeyey waa hore sadkii waa ka dhowyo sulbuu lafaysto walqashiisa saawiri saaka dhaafi maysee warankeenni sooyaan samaydiisi laalayd halka ay ku sugan tahay siciid ma warhaysaa tu kaleeta suuree sirtu erayga jiiftaa saryan ii higaadsoo xarafyada sameeyaa saca farihi weeyaan shibanuhu ma soorana subci shaqaladiisoo 3 baa mid laga jaray ka gungaadh su-aashoo sagandaa ku raacdee sidig oo hanaafayn jaalle mayla socotaa salu yeela sheekada sulo ciidankaan diray sahaydii kamay go'in soonaha iyo dhilowyaha ninka maanta soohow geed saraadkii muu madhan sidii baa galoolkii maydhax looga saaraa waxay suuban leedahay halkan saaka joogaa suryo oodan weeyo silic lagu mutaayo maaha saba ayaan lehe awrku saawo ayaanu goosan seetada xadhig iyo sitaa canaha ka sahamin jeerine isa suranta weydii ka salgaadh xaqiiqada salu yeela sheekada xadhig lama sitaanow sibiq ceelka ha u gelin 30 baac waxbaa dheer sallax weeye oogadu waa sursuur hareeruhu dhexdu waa habeen socod hoostuna sud weeyaan sayma lagu wareejo ka sokeeyo oo mane laba suule waa muruq waa harag sakaareha ku siixin 2 ruux soo horaydu yeedhee u samee wadaanoo sida xuufka caarada sidaheedu yuu go'in salu yeela sheekada caliyow sargooyada waan kugu saluugo samadoon habkeedii tani uma salaaxno safar meel fokaa jira sahal looma naco oo lama sira ninkaa maqan samsam iyo bulaalow cayd iyo salaantii igu soo sinaadee warka aan ku siiye jaalle saaxibaan ahay ha iska kay saloolane horta saani ii baro sida taashi kuu timi kuma cabani saaxiib dhagasiiga awdaan u tumaayay saaroo naf sagaal shub mooye weer saran aqoon baan u saafayay sheekada
hadal lama sugnaado hay cabdiqaaday seeftii hadda waa safkaanahay ninkay seegtay oo maqal sayla xal ha loo diro waxay saxari leedahay may samadu heestoo buuruhu siqaanoo subulaha galbeed iyo saraar laga dhawaaqoo sanqadhaan cirjiidhuhu may waranka sooyaan samaydii subaantoo sabeenuu hadlaanoo suuban laga wardoono ninka samaha raasiya suxun waxu tilmaamaha salaan loogu yeedho la yidhaahda kala saar waxay seeb ku leedahay sirtayaan la faalayn hala sugo jawaabaha waa saxarla sheekadu waa saxarla sheekadu waayahay gaariina halkaas buu dhigay bal waxaan odhan lahaa xasan cabdiqays iyo hadraawi oo kolleyba gunaanadka aynu usoo noqon doono aan iyagu way ugu dambeeyaan bal qolyahan la foole iyo burco iyo dhulkan isku haystay iyaga halkaa aan u yarkaadino haye aan dhinaca jabuuti u kaano u yar baydhno dhowr qof baa reer jabuuti kaga jiray oo xataa gabadha quree bahasha ku jirta ay ka mid tahay dee sida ka muuqatana silsiladu jabuuti la foolaa miisaankeedu oo ka imanayay laysaga hal celinay waxaa soo galay nin la yidhaahdo xasan cilmi oo ka mida abwaanada reer jabuuti suugaan badan iyo fan badan leh xasan siduu isba sheegay dhinacna wuxuu doonayay bal inuu wax ogaado oo wardoon buu yar yahay xog raadis oo dee bahashan nimankii bilaabay iyo dadkii ku jirayba aanay isfahamsanayn xataa dee dad cid kalena ma fahmi karto marka dhinac waa ka yar wardoon dhinacna cabdiqays oo dee jabuuti difaacaya buu isleeyahay u yar hiiliyo xaggaana itaalka ficil yaa kaga jira wuxuu yidhi sanadkani intuu yahay iyo kii sibqee hore sahanada isjidhiya heesahan sadcaalkaa ee siinka laga wado nimankii sameeyow horta idi salaanaye subax wacan ma tooste marka xiga sangaabti iyo magacani la saanyaday balaanidi su-aalee saxarladu ma gabadhba kuwa sabanka joogiya safka haatan soo kacay mata ugu sadroonba masindheer koraysoo sabar geenye ugubloo quruxday suleekhiya nebi yuusuf sidataa ma abeer sirsiran oo soddon laba gu dhaaftoo sararaha ka naaxda ma duqsamaha talisoo isa seega necab iyo sodoh loo bogahayaa ma sir hoorsa socotoo ina sare u qaadaan dadka laga sandahayaa ma sareeda iyo maal ragba wada sugaayoo laga seexan waayaa ma sideetan guuriyo suus iyo nuxuus iyo cudur soo siqaayaa ma gusooro baaqdoo seeskiiyo abaartii kala sooci waayaa ma sabeen halowdoo 3 bari maqnaydoo reer wada sabool hay subax raadinaya ma suldaara iyo been doqon lagu sabaayay sawir la hadlaya waxaa buu leeyahay horta waxa noo sheega fahmi weynay inta mid deebay tahay marag sawdka maansada softaran habowsho seeraha u yaaliya marankiisa seega Soomaaliyo idil salaw bay ku kicisay xaajadu siloona sooyaanku waa maxay ma sacbaa idin dhalay dib lagu sidkaayo solayga u shidaysa waxba yaana sii wadin sawaxanka doodee sugaanta dheer iyo kaftan lagu sargooyo kala soocan mooyee anigaan murtida sarin seedahana gaadhsiin sigibtiray warkaygii waana saadinaya haddaan seeftu igu dhicin inaan suga jawaabtii sidan ararta loo simay ase aan la kala sixin waan salowgay aniguye sarawa ujeedada ma nasiin karaysa war ma nasiin karaysa ma noo sheegi karaysa macnaha waayahay xasan cilmi nimankii uu warka ka doonayay waxaad moodaa inaanay iyaga u jawaabinay in kale reer Jabuuti oo isaguna ah buwanada aad ugu culus xasan wuxuu u bixiyay markaa iyo magaciis umu bixin xataa isagoo tiranayna waan arko magac umu bixin waan gartay Ibrahim Gadle Ibrahim Saleebaan oo isaguna runtii aad abwaan la yaqaan ayaa u jawaabay xasan cilmi nasiib darrtiisi iyadoo dhan imay soo wada gaadhin حتى جبوتي مرة نسكو أرجنينا لو شران ويديي ما يسورة جنين إنه يصعد ما يستره وكل كان يقول لكن إما سوى كارسين مرة أنت عنك هي أمبان هي نقبان دونا وحنا المدة أنت النحر كأهاي هنا أنت هاي وهل كان عشرات بكشوا عشرات داسان كسو جوري إبراهيم وحليه ورحسن ونما كالصومالي يسكو هايستا إنه ريتش بوتي بيننا هاي بحر كودا إيوه هنجله هودا هذا هينقلني هينو كيني وأنت سولي هذا أرنتي اللي حنكي وشنتي الصومالية وحيل سعيدين شري هينو بحر كده بقلاعي نما كاين كده بلي وحوري سوريا اللي قدر جاي السلام بالله صوت دري وحلا سجر ده هاي وسربيب وشيء ده له حلقة صعب كلاقتهم أيوة سبلا جود كل أنا سلوا قدام تدا كمان سيحنا أي سامي كان أولى هاي
saamigaan ku leeyahay safka ugu horreeyaan sadarrada ka gelaya afartaas saxeexoo sarayoo dhameeyaya mar labaadna ila soco sardha hore qof jiifsaday haddii saama lagu tumo sanqar waa ku toosaa sugul soo madoowo maalin sii sagootiyey kala soo cafiidkii sabi soo gurguurtiyo wax sawaaban oo daran sanga waa ka didaya haddii dee baaya soo gurgurta bas waa didaya sayr maweydo hoortiyo roob saraa ku soo daayo oo siigadii namay dhulka simay xareedii saac iyo caleen bixi suugaan yaqaankuna mar hadduu saluugtamo saadaalo maqan iyo subaxa wixii jira sawir buu ka reebaa saqda dhexe habeen dama gud curaan siraa jirin kii suulka taagana subaxdaa la sheegaa sare hadalka iyo udhiga saqadhaa la dhowraa soomaaliya uu sheegaya wixii waktigaa ka jiray iyo kacaankii iyo subuunin nabad sugidii iyo desiidii waxyaabihii sida ahaa sabanka iyo waktiga eeg sadka adiga ku yaal sun miyaa la mariya dayaxa kaa sarreeya sukra miyaa la gaadha badda sacab laguma dhuro halkaasuu isaguna ibraahim ka saaray oo leeyahay inagu reer Jabuuti aynu nahay sadka adiga ku yaal sun miyaa la mariya ayaan haynagu gelin badda waxa soo gashay gabadh la yiraahdo Caasha Jaamac Ibraahim Caasha Jaamac Diiriye oo iyadana reer Jabuuti ah Caasha Jaamac Diiriye Caashi qolyihii la foole ayay la hadlaysaa waliba waxaad moodaa inay hadraawigii bahasha bilaabay ay aad la hadlayso laba fiday ku leedahay oo iyadu gabaya halka nimankan heesta ka tirinayeen iyadu waaba gabay runtii aad u qurux badan oo sarbeeb culus leh laakiin Yusuf aan ka dhex galo halkaas gabay iyo heesan kale waxa laga yaabaa dhalinyarada waqtiga joogtaa inay u qaataan inuu de wuxuu wada gabay iyagu wixii aan muusig lahayn yahay ay gabay wada haystaan marka bal waxaan jeclaan lahaa horta inaynu halkaa kala yara saarno badan imaka aynu wadnay ay ku saabsanayd heesaha badankooda marka tii xashada laga reebo heesaha isku xigaysiinlaydu inay yihiin badii jiiftadii caadiga ahayd gabayguna la yidhaahdo kan soo socda oo dhudii gabayga caadiga ahaa waa sida ku kala duwan yihiin dee xagga masalan hojiska iyo horiska oo kale uu ka duwan yahay dee cod ahaan wuu uga duwan yahay bad ahaan wuu uga dheer yahay dee siyaabo badan qofkii kastoo dee sugaanta dee qofkii dee xitaa qofkuu dareemayaa markuu dee u yar fiirsado in waxay kala duwan yihiin marka waxay tidhi tixdeeda hore kolley waxaan filayaa laba tixood bay tirisay oo adigu in wax ka dhidhiman waan filaya laakiin iyadoo cajirad video ka tiranaysan anu kasoo guuriyey oo kolley sikadiisa un loogu yeedho markaa halkaa ka sheegtay waxay tidhi saada gabay samaalow inaadeer maqal su-aashayda sanadaba waraan qarinayaan kuu sarsarayaae sida sagalka ruuxaad u taho kugu sureeraya seedaha midaad kaga jirtuu sigay jacaylkaagu sanbabada iyo feedhaha midaad saakin ku ahaatay oo weliba sirtay qarin lahayd sababta sheegaysa subxaankaanu kugu dhaariniye saatirka ilaahe sabaaliya adigaan ku dayin beenku samirsiisa sidaad odhan lahayd iyo caddee run adigoo seegin anuu hadalka saameelayoo saaad u tidhi dhaaday ma sokeeyo dumarkuyo anigoo kula sifaynaya waxaan haysa mawtaad raftiya saxarladaadii soo soco sinaba ha u maqnaan waan ku sugayaaye soo soco jacayl weysitaa imana sii dayne nin isiray nin iisata dhigay nin isabaaleeyey soo soco aan ku kala sugay sida isoo gaadhay saygaygii dhoofow intaa waan ku sugayaaye subaxaa dhaqaaqdaa rugtii la iska saanyadaye sidkihii waxaa lagu lisaa dhulaan u soorayna wax sidkaday nimaan kugu simayn igana suurayna sabigii yaraa wuu ka qaday saakasay tahaye soo soco sinaba ha u maqnaan waan ku sugayahay saankii la ii diray markuu sooba noqon waayey aan saadiyey ee dhowray ee waayo badan soobay marunbay siyaabaha dhacaa ii samaan noqonee saacadaha ee baahayo waan ka sugayaaye aniguna ilaahay aan ka suga suu ka dhigi doono haddii se si xunuu sheeg sixir ka daran ee hadal la soo sayray saxarlaha warkaa tidhi hadday subax ku soo gaadhay sinaba ha u maqline waxaad ogaan sacabasaarkeena iyo wacadkaynu seeraniyo saynu leenahay ridada hore halkaas bay dhigtay runtii waxay ka hadlaysaa jacayl maahe waa qadiyaday ku sarbeebayso jacaylka cabdiqays gabadhaa arrin buu ka yidhi wuxuu aniga waxay baasha iga xumaatay markii gabadhaas soo gashay tidhi muxuu ninkan iga ka hortaagan yahay rag baa iga ka hortaagana soo socda iyadoo markaas weliba halkaa isu dhigaysa dee inay tahay
jabuuti oo weli ها mustacmarad bay haysato ها oo ay leedahay waliba xagga dambe ku sheegaysaa ayada Cabdiqaasim laha gabar saxar la yiraahdo oo reer Jabuuti wax ka soo tabinay iyadoo baabadii hadda soo waxay tiri ninka Cabdiqaasim wuxuu sheegay xaqaba jira hadii si saxun sheeg saxar ka daran hadal soo saaray saxar la warqaatay waa tadaan kale kida labaad bay hadana u dirtay isla la foole gabayga dambe waxay raacisay Subeeciyad calan ki Soomaaliya iyo Seef wasayid sheekay marka ما هو ترى ولفت سووا شغل وحيابها اللي يروح رأي لفت إذا كان السبب بيوقع يدور كم إذن تحت لوادنا قبل داسي وحيكون هذا هي ده إصلاح الكهرباء مقنعيسة سلامات كياسين كيسور ده هروين وسفك الدجان لف ولادنا ويدي السلانة وسامي قمتك يقول هلا سبلا تعلم وأنا يقول السيدة أودنتهين دي سيارته وهذا سواها وإسلام هسيه إسلام يركب وقال سنة عروت عروراتي سكريو سمالو وعنو يقول سميسنو وسقالوتك يدها الربية سبان برواقو وسمو محمد وأبو هدرو سمترو هاده سمو محمد وأبو هدرو سمترو هاده سوقرو شاق عليه وسحر لحال كذا سريها أول اللوق ويسنا شي ساعي أفرتاس هذا أنت كده صدر كلام بان الصومالي أنا جو أهان سجور دحيلين وسحر لما قاعي هاي صدر كلام بان صدر كلام بان سيفتنا قدوم waxaan rabaa inaan samaanayo subeeciyadan la laaban qabo way la socotaaya Saciid Saalax oo maragninkii turiyay sooraaya soorkana u xidhay wiilashii inay sareynayay hana ka seexan hawlaha in ragi waasal diriirahay waa tahay afartaas aad inta ka dayay sadar kalaan baan allow siman sabool cayda iyo sabani yaalaaya allow siman seetaysan iyo socota dheeru ya allow siman sadkiinimo lumiya sidibnin maalaaya allow siman jacaylnimo sutiyanimo sugayahay afartaas aad inta ka dayay sadar kalaan baan saddexina raguu siman yahay sadar kalaan baanay midi waa saddex ayaa ku yaalsina hubqaadkooda magta ina raguu siman yahay sadar kalaan baan hadii se saawiya la galo suluf colaadeedka ay soo rogay iyo cashay siiga kor u duusho lama siman sarbeeb halgamaayo dib u saqleeyaa raggiisa xarla faaleeyay siinka ka hadlayay aniguna iskuma soorayo kala sad weeyaane sarisa maayo boogtee waxaan hadal ku saameelay waa wada sokay ragaan sumad wadaagnaaye intii naasadkiin wuxuu noqdaan idin ku sooriyay saddex hadal xidhaalo jiray siinka ka higaadsa siday tahay u soo qoran ma rabo inay u seegtaan saxan hooyadaa nimay dhashay oo saaka kula jooga asal iyo maandhow taqaan soo ra kula qootay sina aan walaalkoogu noqon siinka ka higaadsa midna waa sagal guyoo baaqday siinka ka higaadsa midna waa sandalad geelu yahay sidig dhashoo raacda sarisa maayo boogtee waxaan hadal ku saameelay ninkii saxarli waa been yidhow soo baxo waa duhure saca beena kii iyo tumow sabi ahaantaada saygayga kii igu dirow saaka waa nabad halkaas bay عشنا كجبحذي الله يرحمه ينوي دمتي ودوام بي دمتي هذا روح الشيء عبد القيس هذا بس عوين بكوي على تجبدني عبد القيس وطن الشيخنا يو حيكا حرنتي موضوع وكحر مي هذا روح نوح مركي علاقتي اللي يبوك أنا حمر مركي بوح الله الشيء من حوينه تبيتنا وح ليلي ده تبوت شوقي ده حمر شوقي سكحر مي وهم تبا ما ده دكتور الشيء تري بس لا ودقي هذا الكي دبتنا أذكر بالله سودري بيقولوا دبتنا الصبح بالله السودي قلبتي لا سودري جبوتي دبتنا سيفتي علن كي يسبعية دي بواندي صبح لبعض دينا أذكر بالله سودري وقف حديه يا القطورة يا القطورة يقول هل كان مركي مريسي أرنتي كل بقى جبدي بي مريسا وحا قصة نقلي عبد القيس هيا ومركي سير شناد واضح وأنك أقولها صعبا عبد القيس طبعا هساني ممكن لبضن وقدم بيا سجي حتى واحد تانكي سينلي عبد القيس waxaan soo sheegnay in saxaradii warka ka soo qaadayay gabarka ka soo baxday Jabuuti oo ay tiri oo saxar la magacaygu yahay sadar kalaan baan mushkilada Cabd Qays waxaan noqday markaa inay heestiisiinku ka xiranto markaa wuxuu damcay inuu dhinac kale ama weji kale u rogo sheekada u rogo dabeetana xarafkiisiinka uu ka guurayo xaraf kaloo ba ayuu guuray isla markaana wuxuu weeraray haddana mar labaad hadraawi oo hees la oran jiray beled weyn oo iyaduna waqtiyada cusbayda soo baxday oo laakiin mawduucan aan ku jirin hadraawi dee si madax banaan jacayl iyo meelaha iyada ku saabsanay ayuu mar labaad attack ku sameeyay isagoo laba wajiba uga adeegsanayo dhinac wuxuu doonayaa inuu siinkan uga gudbo qolyahan kale isku haysta dhinac kale wuxuu doonayaa hadraawi gooni isla baxaano
dabeetana intuu beled weyn weeraro hadraawina soo jawaabo ay mar labaatan sidad kale halkaa uga furanto wuxuu yidhi siinkii wuu ballaadho badaal ala jibaaxaye intaan bahola lagu dhicin iminka aan ka baydhno baal kale u guuree waa ba'laya iga qabo baxsan hadraawow boqorkii ammaantow baashaha aqoontow maqlay inaad baxaan baxa socotada ku baahdo beled weyne aadoo barwaaqada iyo raaxada badarkii ka heestoo gabadh aad u qurux badan bilan aad la kulantoo la wadaagtay barasho jacayl kugu bariistoo baholyo ku haystee baryaan kala maqnaynoo kala baadnay inaguye bayd go-aaga maandhow baydhaan kaa su'aalayay bulshada iyo kooxda hadmaa wada boqoosheen baabuurka yaa waday ma midaan biraysnayn kumaa taliya baa soo beenayey taadii bal noo sheeg ninkaa baan biyadhaca warkaygiiyo baaca aan u dhaafee dumar waa badhaadhaha ragna waa bi'iisee nin afkiisu bayd adag kaga giijay boqomaha alluunbaa ka bixiyey isbambaanin weydaye kalgacalma baaboo adigaa ku baanoo boogaan la dhayinayo inuu yahay bir caashiqu beerlula u sheegee buqaankii suleekhee barya aad u jiiftiiyo hadbuu ba'ay xanuunkii baahideeda saxarliyo ma bogsaday walaaci geed baaxad weynoo la yidhaahdo baar baad baaqa noogu sheegtee waadigii u baaday u ilaaway baadkee basradii hargaysiya bardihii maxaa helay muwabiga butacaa beled weyne kula tegi beeraha wajaaliyo banka gabadha joogtiyo aaway bilic wanaagii bi'i waa kalgacalow hadduu maanta baaba'ay burco iyo nugaali iyo jacaylkaagii boorame jacaylkaagii berigii ma ilowday boorame ballandaridu waa ceeb laba boglayna waa cudur beerlolo tilmaantaya caashaqii berbere iyo meebari samaadkii hadba midaan bukaan qabin xadantada ku beertaya xiisahaagu badanaa boqol miyaad u qaybsami kala garabad iyo webi biyahooda kala saar waa baryado qaysiya kaaga timi bilaad foge waa bushaare iga qabo heestaas cabdiqays oo beled weyne uu daba socdo ayaa hadraawina ka soo jawaabay beeraad hees la yidhaahdo ayuu tiriyey oo cabdiqays ugu jawaabay taas baa ayn siinley ugu dambaysaa hadraawi cabdiqays waa iska un wuxuu leeyahay xagga dambena wuxuu ku leeyahay dee beled weynaad la yaaban tahay be imika waxaan sii socdaa baar dheere iyo jamcama iyo baaban sii socdaa oo dee hablaha soomaaliyeed gobol walba jooga ayaan ma jiraan marba tii soo jidataan dee eegayaan wuxuu yidhi aanbaab tusaalaha ku bireeya heestee waxaa iga bannaysina bismillaahi waa kow cabdiyow ba' lagu yidhi beertii jacaylkow haddii siinka buuq iyo barax iyo cindiid dhalay kaftankeenna baaliyo ba'ba aanu roganay waa inoo balooley lugta bidix ka jaamee barni iyo saluugliyo basradii hargaysiyo burco saxarladeediyo cabdiyow ma beenayn ballankii suleekheesad bursiya doonbaa beled weyni geysoo badhidaan la geedii islahaa ku biirso waxaan buuxi leeyahay haantii barwaaqe bi'i waaye qaysow hawshayda baahdiya baylahdayda kala quban xilka aan u baydhnahay barashada xasuusta leh ha ka dhigin barkumata ana baadi hadaftoo iska badalay roortiya ha iga dhigin nin biya dhacay sheekada bu'deeda iyo baaceeda sii raac gunta hoosu sii baadh ibaxnaani saxe ruuxaad bi'iis iyo intiisa baratee badanka iyo calooshiyo kuu baadho feedhaha boogtiisa qaysow lama sii banneeyo bacda lagama jeexee ibanbaani saxe beernula warkeediiyo buundada korkeediiyo baaxaadagaygiiyo kalgacaylka beermiya taliyaha ee bari furay bandhigiis berigaa waxay dhacay bandhigiini joogow sheekada ka bogatoo uma baahnid faallee adiguba barbaarta iyo bulshadaad la socoto barbarbaad ka saarayd baabuurka dhoofo batarka iyo cayaartaba adigaa ka boodo cabdiyow baroortuba ka barweeye maydkee baybaysigaagiyo beeraadkaiga kadna diina weeye taladii bir lagu jaro hadday baydu furato xarkaheedu buubaan lama baraq nuglaado bishmahaaga qaysow baqay lama qaniine waxaa loo bareeraa biyo dhiijinteedii haddaad buro ka leedahay biyo jira ka shaadiyo haddaad bayr ka leedahay biyo jira ka shaadiyo buro adiga kugu taal boqolina lagu dhacay ma bir baynu xidhannaa yaa baashu siday doontaba ha adhigo wuxuu baa socdaa gulwadaha lagu simaday iska buuqi maayo bulxanka iyo qayladu wax bilaasha maahe beesheenna weyn baan ku baxaanbaxaayoo hadba dhinac ka booqdaa hablaheenna bilig iyo bilic lagu majeertee loo sohay baarkaa timahaa ka badano iyagaan badiyo webi uga baaqayaayo anna biligta laafyaha baxsanaanta jaahaan ku baraarugaayo hadba tii baabtee baholyow igelisaan kalgacaylka boodhari ku bariidiyaayo boogaha jacaylkaan siiyaa barhkeedii
waxaa kuu bushaaraa berritana jamaamiya baar dheerayga beledweyne wax dhow beledweyne waaba dhow yahay waa sii socdaa idee 100 kun gaadho barqanaya doog baan hadba baal u rogayaa bahalaa ka rabayaa baashaali maayo barkan maayo gacante cabdiyow baleela soco wadigan ba iyo siin labadaba bilkeed aanbaab gunaanada ku bisleeya heestee wadigan ba iyo siin labadaba bilkeed ayaa ana baad doonka iyo budulkan ku joogaa bala way dambaysaa haysboobi saxay wax moodaa markuu leeyahay bala way dambaysaa dee waa tilabadoodii la xidhay isaga iyo cabdiqays baa la xidhay oo cabdiqaysna ma 6 sanadood buu ka soo laa oo 2 jeer baa marba lagu celiyo waa kii dameerka iyo dee heesayay awal 5 sanadood buu ka soo laa marka markuu leeyahay bala waa dambaysaa waxaad moodaa iyo dee tii markii dambe dee dunida markii dambe Soomaaliya baa ay oraa goosatay si halkaas bay inoogu dhamaatay dabcan inta badan waxa iska dhacda marka xarafka laga baxo silsiladu ka socoto ta dambe inta badan ma qaado waxaan garan karnaa deelaydi markii abdi iidan shiinka u guuray inaanay xanaqaad noqonin marka halkaas bay ku dhamaatay waxaan oran karaa kullayba waxba ka dhiman dhowr heesood ayaa ka dhiman intii aniga soo gaadhay intaas bay ahayd waxaan ku bogaadinayaa kullayba runtii aad iyo aad isaga xil saaray oo dhowr jeer duubay hadraawi anigana ajnadiisu kuwaas iga soo gaadheen iyo waxyaabo kale oo aad u qoraale iyo meel kale aan ka helay adigu almuhim halkaas bay si lay fadhidaa dee wixii kale aad u dhaafayso adigu jirta